بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قلب ونكسن داوياشي كسر قياش ويبنار كان كسر دوادا ويبنارو تحنا بلاود جامعة السيمات يوصل قشين مواضيع أمي سندال كان يبرشة سومالية سامين سين دولة فقرو ويبنار كان عن حب الوصار دونا مر بموضوع قارة ويبرشة سومالية دنين يسو أسبوعا وحان كالي دونا مرتينا أستاذ عبد النور علي محمد وكالي دونا isku biirida Soomaaliya ku beeraysa suuqweynaha bariga Afrika East Africa Community iyo fursadaha ay Soomaaliya ka heli karto. Sala socotiin Soomaaliya oo markii saddexaad ay isku dayayso inay ku biirto East Africa Community 2012 2012 iyo markii ugu dambeysay 2022 waa markii hadda ugu dambeysay waxay u muuqataa in rajada Soomaaliya leedahay aad u fiicnaanayso bacdama ay bilaawatay verification process 20 January waxay Soomaaliya gudagashay verification processkii oo lagu xaqiijin lahaa inay ka mid noqoto ururkan. Ka mid noqoshada ururkan waxaa la socda fursado badan ee Soomaaliya heli doonto kuwaasoo ugu muhiimsan isu furanka socodka iyo badeecooyinka dalalkaas. Arrintaas waxaa aad si qoto dheer leh baaris badan ku sameeyey oo nala wadaagi doono Ustaad Cabdinuur Cali Maxamed. Ustaad Cabdinuur waa diinka ama hormuudka kulliyadda dhaqaalaha jaamacadda Simat sidoo kale waa bare sare arrimaha dhaqaalaha iyo cilmi baaris ku sameeya. Ustaad soo dhawow. Ustaad codka ka xiran yahay haddii aan anigu dhihi kartid. waa mahadsantahay Ustaad Cukaash iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha nagala socda halkan. waxaan maanta ka hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo Soomaaliya oo rabta inay ku biirto ururka dhaqaale ee wadamada la isku yiraahdo East Africa. Hadda waxaa ku jira ururkaas 7 dawladood. Soomaaliya waxay rabtaa inay noqoto dawladda 8aad. waxay qaybtan ama webinarka uu ka koobnaa doonaa haddii Ilaahay yiraahdo 3 qaybood. qaybta koowaad waxaan uga hadli doonaa dhaqaalaha wadamadaas iyo hadda sida uu yahay. qaybta labaadna waxaan uga hadli doonaa faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka uu leeyahay haddii lagu biiro. qaybta saddexaadna waxaan uga hadli doonaa caqabadaha haysto asaga si uu u noqdo urur wadamada ku jira oo dhan ay ka faa'iidaan. haddii aan ka bilaabo intaanu presentationkeena ka koobnaa doona haddii Ilaahay yiraahdo in aan taariikhdooda wax kooban ka sheegno dhaqaalahooda guud ahaan sida uu yahay faa'iidooyinka faa'iido darrooyinka uu leeyahay marxaladaha kala duwan ee maro caqabadaha ku aadan. waxaan ku soo gabagabay doonaa haddii Ilaahay idmo su'aalo iyo jawaabo su'aalaha dadka ka soo qaybgalayaasha ay qabaan iyo wixii ay aragti ay qabaan in aan jaanis u siina dadka inay soo bandhigaan. haddii aan ka bilaabo taariikh ahaan East African Community oo EAC magacaasa inta badan loo isticmaali doona haddii Ilaahay yiraahdo waxaana laga soo gaabiyey East African Community. markii ugu horreysay waxaa la aasaasay 1967 laakiin haddana waxay kala tageen ama uu burburay 1977. midka hadda jiro oo Soomaaliya ay rabto inay ku biirto waxaa la aasaasay ama aragtidiisa la bilaabo 1999 7 July 2000 la dhaqan geliyay ama lagu heshiiyey. waxaa ku heshiiyey wadamada Kenya, Ethiopia, Uganda iyo Tanzania oo East African Communities magacaas la baxay. 2007 waxaa ku biiray wadamada Burundi iyo Rwanda codsaday isla 2007 ayna ka mid noqdeen. 2016 waxaa codsatay South Sudan. South Sudan waxay xumin buuxda noqotay isla Agosto 2016. 2020 shirkii ugu dambeeyay oo ay galeen waxay ansixiyeen Republic of Congo inay ka mid noqoto ururkaas. Congo ka mid noqoshadeedu waxay dhalisay dhowr su'aalood. su-aasha ugu muhiimsan ay tahay ma laga yaabaa in la bedelo magacii oo East Africa maadaama wadamadan Congo aysan ku oolin ayada East Africa. Congo waxay ku taalaa bartanka
waqooyi ama Central West oo Africa ku taala ma ahan wadan oo East Africa ku yaal soo marka ma laga yaabaa inuu isbedelo magacii ahaa East Africa dhalisay in la aqbalo Congo taariikh ahaan taariikhdooda aad ay u dheer tahay inta uu presentation ka socdaa meelaha ay waxyaabaha qaar iyo saxiixyada iyo heshiisyadii dhexmara ayaga ay soo galaan aan geli doonaa dadka ka soo qaybgalayaasha su'aalaha waxay ku soo qori karaan jaadka ama meesha ay ku qoran tahay Q&A-da ay ku qoran tahay Soomaaliya waxay codsatay inay ku biirto East Africa 2012 codsigaas waxaa la geliyay pending sida ayaga ay sheegeen ama dokumentiga ay ka soo baxay ay ku qoreen waxaa sabab u ahaa waxyaabo badan ama su'aalo badan oo la xiriiray Soomaaliya aysan ka jawaabin 2018 ay dib waxay ugu soo direen Soomaaliya documenti ay ku weydiinayaan ama ay ku dalbanayaan inay soo booqdaan Soomaaliya si hawlaha ku biirista ay uga sii shaqeeyaan laakiin dawladdii markaas jirtay Soomaaliya November waxay ka gaabsatay ama waxay qoraal ku sheegtay waqti ku munaasab inaysan ahayn 2022 Soomaaliya dib ugu celisay dalabka ah inay ku biirto East Africa kaasoo hadda guddi loo saaray ay ka shaqeynayaan sidii loo dardargeli lahaa shuruudaha ku aadan in wadanka raba inuu xubinta ka noqdo waa 5 shuruudood shuruudda ugu horeysa waxa waaye wax la yiraahdo geographical proximity oo ah wadanka waa inuu yahay wadan East Africa ku yaal ama daris la wadamada East Africa ku yaal marka East Africa isku yiraahdo way ka badan yihiin kuwa hadda ururkan ku jiro laakiin waxa xaq u leh inuu ka qayb galo ama dalban karo wadan kasta oo juqraafi ahaan ku yaalo East Africa ku yaal shuruudda labaad waxa waaye wadan kasta oo ku soo biiro waa inuu aqbalo heshiisyada u yaala asaga heshiiskii ugu horeeyay oo ay galeen kii 2004 ay galeen kii 2009 kii 2013 dhammaan heshiisyadaas oo ka horeeyay wadanka markuu ku biirayo waa aqbalaa shuruudda saddexaad waxa waaye wadanka waa inuu leeyahay good governance dawlad wanaag inuu leeyahay waa inuu leeyahay dimuqraadiga waa inuu yahay dastuur waa inuu ku dhaqmaa xuquuqul insaanka inuu ilaaliyo cadaaladana ama legal systemkiisana inuu fiican yahay shuruudda saddexaad oo wadanka laga rabo waxa waaye ka mid noqoshadiisa waa inay kor u qaadayso awoodda ururka inay kor u qaadayso shuruudda afraadna waxa waaye waa dhaqaalihiisa waa inuu yahay market driven waxa waaye systemka dhaqaale ee wadanka uu haysto waa inuu yahay capitalist oo ah system uu suuqa uu xoogan yahay oo suuqa uu awoodda leeyahay waa inuu wadamadan marka waxa marka badan ah wadamada Africa ama East Africa ku yaalo dhaqaalahooda suuqa ma maamulo mise dawladda awoodin inay ay suuqa sharciye u samayso mararka qaar marka waxa la yiraahdaa unregulated markets ama private sector driven economies private sector ka wuxuu ka xoog badan yahay dawladda ka xoog badan sida darteed dawladda ma sharciyeyso shuruudda shanaad ugu dambeysana waxa waaye wadanka laga rabo dhaqaalaha iyo siyaasadda wadankaas uu leeyahay waa inay yihiin kuwa dabaqi kara ama kuwa la jaan qaadi kara inay noqdaan wadamada ku yaalo East Africa Community ku yaalo shuruudahan marka fiirsan marka kulligood waa purposive judgmental waa shuruudo dhammaantood aan criteria lagu cabir lahayn laakiin ay madaxda wadamadaas inta ka shiraan ay wadankii rabaan ay u ogolaadaan wadankii rabaan ay ka saaraan shuruudahaas marka Soomaaliya ma fuli kartaa marka afeerin of course Soomaaliya shuruudahaas way fuli kartaa sababtoo ah wadamadan East Africa iyo wadamada ku yaalo sida East Africa sida South Sudan iyo Congo wadamo oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan aan Soomaaliya wax badan aan ka duwaneyn way wadamo aan wax badan ka duwaneyn way taariikh ahaan dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan Soomaaliya way ka mid noqon kartaa hadii ay u arkaan ayaga inay maslaxadooda ku jirto hadii u arkaan shuruudahan ma ahan caqabado oo celinaya Soomaaliya ma
waxaan wax yar ka sheegi doonaa haddii Ilaahay raahdo عبد النور ميوت استقعد ميدا كسر qaybtan waxaan ugu talagalnaa marka dadka oo aan aragti ka haysan dhaqaalaha wadamadaas inay ka qaataan aragti ay ka qaataan haddii aad ka bilaabo wadamada East Africa waxaa la yiraahdaa waa wadamada ugu kobaca dhaqaale badan Africa oo dhan marka laga reebo wadamada oo North Africa ku yaala shidaalka ka ganacsada waxa dhaqaalahooda hoos u dhacay intii lagu jiray koronaha sababtoo ah qayb badan oo dhaqaalahooda kamid ah wuxuu ku tiirsan yahay serviceka waxa la yiraahdo iyo sidoo kale serviceka waxa kamid ah tourismka oo wadamadaas qayb badan oo dhaqaalahooda kamid ay ka sameeyaan soo maadaama koronihii aan uusan jirin dalxiis dhaqaalahoodu aad u hoos ugu dhacay weli waxaa la sheegaa meelihii ugu hooseeyay inuu gaaray oo kobaca dhaqaale ay sameeyeen 1.5 bes oo ahaa boqolkiiba 2022 waxaa laga soo kabtay hoos u dhacaas dhaqaale wuxuu ku wacooda dhaqaalaha uu gaaray 4.8 uu gaaray oo ah dhaqaalaha kobac dhaqaale oo aad u ballaaran kobaca dhaqaale ee wadamadan East Africa wuxuu ka yimaadaa waxa la yiraahdo government expenditure oo ah kharashka dawladda ay bixiso qarashka dawladda ay bixiso waxay ku bixisaa infrastructure sida darteed haddii aad tagto wadamadan waxa aad u arkay wadooyin la dhisayo guryo waaweyn oo la dhisayo dhismayaashaas waxay abuureen iyo infrastructure developments ay sameynayaan waxay dad badan u abuureen shaqo sidoo kalena dhaqaalaha kobciyo kharashka infrastructure-ka sidoo kale waxay ka helaan deyn ahaan oo badanaa China ay ka qaataan 10 sano la soo dhaafay China waxay East Africa gelisay 22 bilyan oo lacag ay gelisay oo infrastructure development ay u sameeyay ujeedooyinka ay u sameeyay waxaa kamid ah in trade-ka Africa ay qayb weyn ka qaadato taasoo wadamadan East Africa lafteeda laga yaabo inay ku noqoto caqabad ay ku noqoto sidoo kalena kaalmada ay ka helaan wadamada Yurub ayadana waxay ka taageertaa ama qayb ay ka noqotay development ay sameeyay kobaca dhaqaale ee wadamadan markay fiiriso Kenya waxay sanadkii la soo dhaafay 2022 kobceedu ahaa 5.7 Tanzania 4.7 Uganda 4.8 Burundi South Sudan oo kobceeda dhaqaale oo hoos minus ah oo inay kobcaan iska dhaaf waxay hoos u dhaceen 2.8 wadamadaas crisis waxa ka jira oo khilaafaad ay kamid yihiin laakiin wadamada kobcay ee aan hoos u dhicin marka fiiriso wadanka ugu hooseeya kobac ahaan waxa waaye waa Soomaaliya waaye markii wadamo ay integration sameynayaan ama xiriirka dhaqaale ay sameynayaan faa'iidada ugu badan waxa helo wadanka ugu kobaca badan faa'iidada ugu yarna waxa helo wadanka ugu kobaca yar so calaamada koowaad ama meesha koowaad ee laga akhrisanayo inaan Soomaaliya ka faa'iideyn kala waxa waaye meeqay kobcayeen meeqan kobceen so kobac ahaan dhaqaale ahaan way naga sareeyaan haddii aan fiirino population kooda tirooyinka meesha ku qoran milyan waaye Kenya 54 milyan waaye Tanzania 61 Uganda 48 Burundi waxa waaye Burundi 11 waaye Tanzania tirada Tanzania waa
Rwanda 13 waaye, South Sudan 11, Soomaaliya 16 milyan waaye. So population markaa fiiriso sidoo kale Soomaaliya waxay kamid tahay wadamada ugu population ka yar ay kamid tahay. Population ka ama dadka wadanka ku nool tiradiisa waxay qayb weyn ka tahay waxyaabaha keena dhaqaalaha inuu kobco, sababtoo ah waxaa heli kartaa dad badan oo shaqeeya heli kartaa. Sidaa darteed waxaa la dhahaa East Africa faa'iidada ugu badan oo ay dhaqaale ahaan leedahay waxaa waaye waa suuqa ugu ballaaran Africa ugu ballaaran waaye. Sidoo kale region ahaan markii Africa loo kala qaado regionska waa regionka ama gobolka dadka ugu badan ay ku nool yihiin. Sidaa darteed dad badanaa waxay qabaan in Africa ama East Africa ay suuq potential market waxa la dhaho, suuq rajo ama jaanis badan oo ka jira inay tahay. Laakiin analysiskaas waxyaabaha oo mararka qaar caqabada ku ah waxaa kamid ah qodobada soo socda oo ka hadli doono. Kow waxaa ka ah suuqa dadka ku nool tirada bes lama qiimeeyo. Yes, tirada qodob muhiim ah waaye, laakiin sidoo kale waxaa la qiimeeyaa sicir bararka ka jira wadamadaas. Kenya sicir bararka ka jira 7%, Tanzania 4%, Uganda 6%, Burundi 16%, Rwanda 14%, South Sudan 17%, Soomaaliya 9%. Sicir mar walba oo sicir barar badan wadanka uu ka jiro, dadka wadankaas ku nool awood uma yeelanayaan inay gataan waxyaabaha banaanka looga keeno. Waxay ku qasbanaanayaan inay isticmaalaan waxyaabaha beerahooda ka soo baxa ama wadankooda lagu sameeyo. Sidaa darteed jaanis badan ma jiro haddii sicir barar badan uu jiro in wadankaas xiriir dhaqaale lala sameeyo ama faa'iido badan laga helo. Sidoo kale sicir bararka oo tiro badan wuxuu sidoo kale keenaa ama uu caqabad ku yahay waxa la yiraahdo interest rate ka oo lacagta dulsaarka. Mar walba oo tusaale ahaan Rwanda oo kale sicir bararka 14% uu yahay, waxaa qasab interest rate-keeda 20% inuu ku dhawaado. Sidaa darteed wadankaas lama maalgelin karo, sababtoo ah lacagta aad ku maalgelin lahayd waxaa meesha ka saaraya ama offsetting ku sameynaya dulsaarka tirada badan ay ka rabaan bangiyada. Waxaan ognahay wadamada maalgashiga ama kambaniyada maalgashiga sameeyo lacago kama keenaan wadankooda. Waxay diinka ka qaataan wadamada kambaniyada ama bangiyada gudaha, lacagtaasi ay dib u maalgeliyaan. soo sicir bararka marka wuxuu caqabad ku yahay faa'iido kasta oo laga heli lahaa kobaca dhaqaalaha wadanka uu leeyahay, faa'iido kasta oo laga heli lahaa. sidoo kale waxaa fiirinaynaa si aan u dareeno suuqa ka jira East Africa intuu la egyahay wadamadaas fakhrigooda. Haddii tusaale Kenya oo kale 32% dadkeeda fakhri waayo, Tanzania 27%, Uganda 42%, Burundi 87%, Rwanda 13%, South Sudan 17%, South Sudan 76%, Soomaaliya 69% waayo. Wadamadaas marka haddii uu fakhrigooda badan yahay, sidoo kale waxaan awood loo yeelanaynin ama qof dadka xiriirka dhaqaale la leh waxaysan ka faa'iideynin suuqa ama dadka tirada badan leh meesha ku nool. Sababtoo ah Kenya ama oo kale tusaale ahaan 54 milyan ku nool, 30% kamid ah 54 milyan waa fakhri. Fakhri waayo marka la leeyahay macnaheedu waxaa waaye maalinkii waxaa soo galo wax ka yar $2 ha soo gasho. So qof maalinkii $2 ka yar ay soo gasho waxaa aad u yar waxa uu ka gadan karo ama inta uu ka gadan karo wax dibadda laga keeno. qodobka saddexaad ee laga qiimeeyo suuq ma ka furan yahay wadankaas oo marka dadka tirada ama tirabadnida dadka aysan wax badan oo faa'iido aysan u lahayn. Waxaa kamid ah per capita income-ka. Per capita income-ka waxaa waaye awoodda wax gadasho ee dadkaas intay leegtahay. Kenya dad sanadkii celcelis dadkeeda waxaa soo galo 5,000 soo gasho, Tanzania 2,000, Uganda 2,000, Burundi 700, Rwanda 2,000, South Sudan 1,100, Soomaaliya 1,200. wadamadaas marka fiirisid marka kulligood waa lower income countries oo wadama oo low income kay waxay ka sii yihiin dabaqad hoose ka yihiin. Sababtoo ah wadan kasta oo ay soo gasho dadkiisa celcelis $10,000 ka yar waxaa la yiraahdaa waa low income country. So wadamadan sidaa darteed waxaa waaye low income country.
sababta aan income-ka u cabirna ama u soo qaadano waxa waaye waxa income-ka xiriirka la dhaxeeya waxa la yiraahdo import demand oo ah dadka wadanka ma u baahan yihiin inay dibadda wax ka keensadaan waxa lagu cabiraa income-kooda meequu leeyahay sidaa darteed haddii income-kooda uu yar yahay suuqooda lagama sameynayo haddii aan fiirino ganacsiyadooda inta ay leeyihiin ama awoodda ama waxa la yiraahdo terms of trade oo ah inta ay ka qayb qaataan ganacsiga caalamiga marka fiirin Kenya sanadkii la soo dhaafay waxay dhoofisay 11 bilyan ay dhoofisay waxayna soo dhoofsatay 12 bilyan trade-ka ama wuxuu trade-keeda deficit yahay ama minus yahay 10 bilyan so wadanka hadii uu trade-kiisa deficit yahay waxaa sidoo kale deficit noqon doona budget-kiisa oo ah waa inay hoos u dhacaas trade-ka waa inay kabto dawladda inay kabto marka waxaa la yiraahdaa twin deficit Allah wadan kasta oo balance of payment-kiisa ama trade-kiisa uu deficit minus yahay budget-kiisa minus uu noqonaa haddii labadaas ay minus noqdaan wadankaas waa inuu canshuur badan qaado wixii dadka uu sii jirana uu yareeyo sidaa darteed ma laga faa'iidayo in la sameeyo xiriir ganacsi in la sameeyo Tanzania 9 bilyan ay dhoofisay 12 milyan ay soo dhoofsatay 12 bilyan ay soo dhoofsatay Uganda 6 bilyan ay dhoofisay 12 bilyan ay soo dhoofsatay Soomaaliya 1 bilyan ay dhoofisay iyo 300 milyan waxay soo dhoofsatay 6 bilyan ay soo dhoofsatay so wadamadan East Africa kuwa gaar ahaan annaga xiga markii aad fiiriso waxay kulligood ku jiraan waxa la yiraahdo balance of payment deficit oo ah waxa ay dhoofiyeen iyo waxa ay soo dhoofsadaan waxa badan waxa ay soo dhoofsadaan taasoo macnaheedu uu yahay qayb badan oo kamid ah lacagtooda waxay aadaa dibadda ay aadaa waxay aadaa wadamada ganacsiga oo kala dhaxay wadamadaas waxa ugu horeeya midowga Yurub iyo waxa ugu horeeyo China India iyo sidoo kale Saudi Bahrain Malaysia wadamadaas waxay leeyihiin xiriir ganacsi leeyahay Soomaaliya wadamadaas hadda xiriirka ay la leedahay intuu leeyahay tusaale ahaan Soomaaliya Kenya waxay ka soo dhoofsataa sanadkii 122 milyan ka soo dhoofsataa waxay Soomaalida Kenya u dhoofiyaan 895 kun oo waa wax ka yar 1 milyan ka yar Tanzania Soomaaliya waxay ka soo dhoofsataa wax u dhigma nus milyan waxay Soomaaliya Tanzania u dhoofisaa wax u dhigma 2563 dollar Soomaaliya Uganda waxay ka soo dhoofsataa 675 kun waxayna Soomaaliya ay u dhoofisaa Uganda 76 milyan so annaga oo aan East Africa ku jirin hadda already waxa aan annaga u dhoofino iyo waxa aan ka soo dhoofsana waxa aad u badan waxa aan ka soo dhoofsan sidaa darteed waxaas laga soo dhoofiyo hadda dawladda waxay ka qaadaa canshuur ay ka qaadaa haddii heshiiskaas ama East Africa ay Soomaaliya ku biirto lama qaadi karo canshuurtaas waxyaabaha oo la weynayay ay ka mid noqon doontaa xiriirka wadamada markay rabaan inay sameystaan xiriir dhaqaale ay rabaan inay sameeyaan xiriirkaas dhaqaale ama waxa la yiraahdo economic integration wuxuu maraa 5 marxaladood u maraa marxaladda ugu horeysa waxa la yiraahdaa free trade marxaladaas wadamada dunida waxay ku heshiiyaan inay iska yareeyaan waxa la yiraahdo taarifka ama canshuurta ay saaraan si tartiibana canshuurtaas loo yareeyo wadan kasta laakiin asaga oo madax bannaan canshuurta uu saarayo wadamada aan ururkaas ku jirin tusaale ahaan Soomaaliya wadanka aan East Africa ku jirin waxay rabtay saari kartaa laakiin East Africa wadanka ku jiro waxay saarey canshuur yar ay saarey sida oo heshiiskooda ku qoran marxaladaas East Africa way soo dhaaftay waxayna heshiiskaas saxiixeen 2000 ee saxiixeen sida darteed haddii xataa Soomaaliya ay ku biirto waa laga soo gudbay marxaladii oo canshuurta hal kala yareeyo ah marxaladda labaad waxa la yiraahdaa custom union waxa waaye wadamada waxay ka heshiiyaan inay canshuur isku mid ah saaraan wadamada aan ayaga ahayn ayagana canshuur isku mid ah ama canshuurta ay saari jireen inay kala yareeyaan sidoo kalena waxay haystaan wax la yiraahdo trade regime oo ah nidaam ganacsi oo isku mid inay qaadaan tusaale wax isku mid ay diidaan wax isku mid ay aqbalaan sharci isku mid ay kalihiin waxa la dhoofinayo canshuurta ay wadamada kala saarayaan way ka sameeyeen tusaale ahaan ayaga canshuur aad u hooseysay kala qaadayaan wadan kasto ayaga aan ahayn reed isku mid ay saarayaan tusaale hadii heshiiska uu yahay 1% ayaga inay saaraan wadamada kalena ay 6% saaraan Djibouti oo kale Soomaaliya waxay saaray 6% Kenya waxay saaray 1% tusaale waa number iska laakiin heshiiska sida ku jirto saas way
heshiiskaas wadamadan waxay saxiixdeen 2004 saxiixdeen darteed sida shuruudda saddexaad hadday labaad ee aan soo sheegaynay ahayd heshiis kasta oo ay hore u galeen waxaa qasaba wadanka ku biiraya inuu heshiiskaas aqbalaa qasaba marxaladda saddexaad waxaa la yiraahdaa common market wadamadan waxay ku heshiiyaan in movementiska ama wax la yiraahdo isku socodka shaqaalaha iyo capitalka maalgashiga qalabka wax soo saarka loo isticmaalo inay isku gudbi karaan qofka Kenyanka wuxuu xaq u leeyahay inuu ka shaqeysto Soomaaliya sida uu uga shaqeysan karo Kenya laakiin weli wadamadan waxay kala duwan yihiin sharciga shaqaalaha waxa waaye qofka la shaqaaleysiinayo maxaa laga rabaa meeqa saaca la shaqeynaa meeqa mushaaraha la qaadanaa maxaa qofka lagu ciiri karaa sharcigaas waa lagu kala duwan yahay laakiin qofka Ugandayska wuxuu xaq u leeyahay inuu Soomaaliya ka shaqeysto qofka Soomaaligaana wuxuu xaq u leeyahay inuu ka shaqeysto Kenya Uganda inuu ka shaqeysto xaq u leeyahay ma la celi karo visa ma u baahno dalab sida xuquuqda muwaadinka kale u yeelana kaliya waxa lagu kala duwanaana regulation heshiiskan wadamadan oo East Africa ee Soomaaliya ay rabtaan inay ku biirto waxay saxiixeen 2009kii heshiiskan saxiixeen ay ku heshiiyeen inay isku gudbaan shaqaalahooda iyo maalgashigooda iyo warshadahooda wax soo saarka inay isku gudbaan marxaladda afraad waxaa la yiraahdaa economic union sidoo kale waxaa loo yaqaanaa single market marxaladan dadka qaar waxay u isticmaalaan magaca la yiraahdo single market oo ah hal suuq wadamadan waxaysan kala qaadin marxaladan markii la joogo waxa canshuura ma kala qaadayaan oo ah waxay la mid tahay alaabta Kenya ka timaado beledweyne alaabta ka timaado Baydhabo la mid noqonay wax shuruudo oo ku xiran iyo wax canshuura oo ku xirnaanaya ma jiraan sidoo kale qofka muwaadinka ee ka shaqeysto ee raba inuu meeshan ka shaqeysto wuxuu la mid yahay qofka ajnabiga ee raba wadanka inuu ka shaqeysto ee wadamadaas ka yimid wuxuu ku xuquuq noqonaa qofka muwaadinka oo ku xuquuq noqonaa sidoo kale waxay ka heshiiyaan inay siyaasadda la yiraahdo fiscal policy oo ah dawladda meeqay canshuur qaadee meeqay qarash bixinee budgetkeeda meequu noqonaa isku mid inay ka noqdaan sidoo kale fiscal monetary policy wax la yiraahdo ee bangiga dhexe lacagta uu maamulo oo ah meeqa lacagaha suuqa ku jirayso sarifka meequu noqonaa in lacag isku mid ah sidoo kale la isticmaalo heshiiskaas wadamadan East Africa waxay saxiixeen 2013kii saxiixdeen laakiin bangiyadooda iyo financial systemkooda oo aan xooganayn darteed wax badan maysa ka dhaqan galin laakiin haddii uu dhaqan galo lacag isku mid ah ay isticmaalayaan crisiska dhaqaale ee wadamada Yurub haysta sida wadamadan Greek, Portugal, Spain, Talyaaniga crisiska dhaqaale ee haystana waxa sabab u ahayd heshiiskii wadamada Yurub ay gaareen 2000 ay gaareen oo ahayd inay noqdaan lacag isku mid haddii markaa wadamada Yurub fiiriso wadamada dhaqaalahoodu uu fiican yahay waa wadamada aan ka qayb qaadanin Euro monetary zone ka waxa wadamada lacagtooda haystay waayo wadamada dhaqaale ahaan uu fiican kuwi laakiin oo ku beeray waxay noqdeen crisis ama dhibaatooyin dhaqaale la kulmeen sida hadda marxaladan waa marxaladda uu maraayo East Africa Community ay marayso waana marxaladda Soomaaliya markay ku biirto ay ka mid noqonayso lacag isku mid ah la isticmaalo siyaasad isku mid ah bangiga dhexe laga qaato siyaasad isku mid ah wasaaradaha maaliyadaha ay qaataan sidoo kalena waxa nibaada oo la saarayo aysan jirin alaabaha ay ka kala ganacsadaan marxaladda shanaad ee ugu dambaysa waxa waaye wax la yiraahdo political union East Africa waxay u taqaanaa wax la yiraahdo political federation oo ah wadamada East Africa ku yaalo hal dawlad inay yeeshaan hal dawlad oo kale inay noqdaan wadamadana ay noqdaan members ay noqdaan sida federaalka uu member states u leeyahay oo kale inay member ka noqdaan waxay yeelanayaan ciidan isku mid ah military isku mid ah waxay yeelanayaan lacag isku mid ah waxay yeelanayaan baarlamaan waxay yeelanayaan nidaam cadaalad oo isku mid ah legal systemka isku mid ah noqonaa haddii marxaladaas ay gaaraan marka waxay dooranayaan secretaries maamulo laakiin siyaasadda guud ahaan oo ay ku dhaqmayaan waxay ka imaanayaan hal meel ka imaanayaan sida darteed magaca oo political union wax loogu bixiyo soo marxaladaas wax gaaray hadda waxa ugu weyn midowga Yurub ugu weyn la East Africa marka nidaamka siyaasadeed ee ka jira waqti badan ay qaadaneen laakiin visionkooda markay afiiriso ama meesha ay rabaan inay gaaraan waa meeshaas oo ah inay hal dawlad oo kale inta kalena ay members yihiin inay noqdaan waxaan ka soo hadalnay
East Africa taariikh yar oo kooban ee dhaqaalahooda sida hadda uu yahay iyo marxaladaha kala duwan ee uu maro waddan markii heshiisyadan dhaqaale dowladaha markii galayaan marxaladaha kala duwan oo ay maraan. waxaan hadda ka hadli doonaa haddii ilaa yiraahdo faa'iidooyinka laga helayo wax la yiraahdo gains from the EAC oo ah maxaa laga faa'iidaa Soomaaliya haddii ay ku biirto maxay faa'iide faa'iidada ugu horeysa oo la helayo waxaa la yiraahdaa trade gains oo faa'iido ganacsi oo laga helaa faa'iidadaas ganacsi waxaa waaye alaab kasta oo wadamadan ay soo saaraan oo aan ka keeni jirnay waddan kale waxaan ka soo qaadanaynaa wadamadaas ayadoo canshuur aysan saarnayn oo ay tii hore ay ka raqiisan tahay aan helaynaa waa haddii alaabahaas ay yihiin substitutes ay yihiin faa'iidadaas marka badanaa waxaa helo marka wadamada ay dhaqaale ahaan ay aad u kala duwan tusaale farqiga u dhexeeya Jarmalka iyo Greek oo kale Jarmalka waddan aad u horumarsan Greek waddan horumarayo kale so wax badan oo uu meel kale ka qaadan lahayo wuxuu ka qaataa Greek Jarmal uu ka qaataa kale laakiin wadamada East Africa badanaa waxay ku saleysan yihiin wax soo saarkooda beer ay ku saleysan yihiin so waxa ay kala qaadanayaan wax kasta oo beer ka soo baxo ah waddan kale uga baahneed waxaa ka qaadan kartaa wadamadan oo East Africa ka qaadan kartaa waxaa kaloo oo haddii marka ay dhacdo wadamadan East Africa inaan ka qaadato waxyaabaha ganacsi ah u baahan tahay wadamadii hore uga soo qaaday jirtay waxay ku qasbanaanayaan inay tartamaan sidaa darteedna ay raqiisiyaan price-ka ay raqiisiyaan taasoo ayadana u ah faa'iido u ah dadka oo Soomaaliyeed haddii ay ku biiraan waxaa kaloo ayadana laga faa'iidaa waxaa badanaya tartanka oo shirkadaha banaanka ay u galayaan gudaha inay alaabo keenaan sidaa darteed waddanka tusaale haddii Kenya aan ka qaadan karno sokorta hadda Brazil iyo India ka soo qaadanaa Brazil iyo India waxay ku qasbanaanayaan si ay u tartamaan inay raqiisiyaan alaabo ay sokorta ay raqiisiyaan oo kale faa'iidooyinka laga helayo ka mid ah laakiin faa'iidadaas ma la helayo haddii wadamada East Africa ay ku heshiiyaan canshuurta wadamada aan ayaga ahayn ay saarayaan inay kor u qaadaan ama ay qaali noqoto haddii ay dhacdo waxa ku dhacaya wax la yiraahdo trade diversion waxa waaye wadankii wax ka gada jirtay marka alaabtaada canshuurtaada ay qaali ka dhigtay alaabtiisa inuu inta ka wareegsado meel kale uu raadiyo sidaa darteed haddii canshuurtaas ay qaali noqoto ma laga faa'iidayo ama faa'iidooyinkaas ma la heli doono waxaa faa'iidada labaad oo laga helayo waxa waaye waxay kor u qaadaa competition ama waxaa bato tartanka bato wadamada oo suuqooda uu yaryahay ama wax la yiraahdo narrow market definition suuqu size-kiisa uu yaryahay suuq size-kiisa uu yaryahay waxa waaye buyerska dadka wax ka gata iyo dadka wax ku gadaba ay aad u yar yihiin wadamadaas waxay ku qasban yihiin laba inay kala doortaan wax la yiraahdo economies of scale iyo competition inay kala doortaan waddan kasta oo suuqiisu uu yaryahay waxaa dhacdo hal shirkad badanaa inay suuqaas qabsataa dhacdo sidaa darteed shirkadaas keligeeda waxay awood u yeelanayaan inay wax badan soo saarto ama inay dad badan u adeegto laakiin monopoly noqonaya oo waxaa yaraanaya tartankii suuqa lagu jiraa meesha ka baxaan haddii suuqa la rabo marka in la weyneeyo waxyaabaha oo suuqa lagu weyneeyo waxaa kamid ah inaad ku biirtid oo kale economic urur dhaqaale sida East Africa oo kale inaad ku biirtid marka ururkaas dhaqaale aad ku biirtid suuqa wuu ballaaranaa suuq markuu ballaarto shirkado waaweyn waxay soo geli doonaan suuqaas shirkado waaweyn markay suuqa soo galaan tartanka uu batana waxaa yaraanaya qiimaha wax la gado waxaa badanaya tirada wax la gadaa badanaya arrinkaas dadku way u fiican tahay laakiin waxay u xun tahay shirkadaha oo suuqyada hadda ka tartamaya u xun tahay tusaale shirkadaha ganacsiga kuwa oo bangiyada waxbarashada isgaarsiinta waxa shirkadaha wadamadaas kale ka jira waxay xaq u yeelanayaan inay suuqa Soomaaliya yimaadaan ayagoo sharci iyo wax ka celinaya aysan jirin sidaa darteed waxay culays saarayaan shirkadihii oo Soomaalida culays saarayaan faa'iido markay u tahay haddii ay shirkadihii suuqa ay ka baxaan waxay faa'iido u tahay dadka waxay raqiis u noqonayaan qiimihii ay wax ku gadi jireen waxay ku helayaan raqiis taasna waa faa'iido waatii Adam Smith uu lahaa ganacsi kasta heshiis ganacsi oo kastoo la galo
dadna waa ku qasaaraan dadna waa ku faa'iidaan laakiin faa'iidada waxay jirtaa meesha ay waxa badan jiraan dad badan marka waxay yiraahdaan Adam Smith wuxuu ahaa utilitarian philosophy oo ah utilitarian waa falsafada qabta meesha badan meeshay faa'iidadu ku badan tahay wanaaguna ku badan yahay tusaale hadii hal la lumiyo laba la faa'iido waa la faa'iiday heshiiskii ururkan oo la galo waxaa ka dhalanaya tartanka inuu bato shirkadihii Soomaalidan waxay wajihi doonaan tartan badan ay wajihi doonaan shirkadaha Soomaalida ma u diyaarsan yihiin ma waxaa dhici doonto sida oo ku dhacday shirkadihii diyaaradaha markii ay diyaaradahan Turkish iyo Ethiopia iyo Qatar ay yimaadeen sida shirkadihii Soomaalida ay suuqa caalamiga ahayd uga bixeen oo kale may suuqyadan uga bixi doonaan qofna ma ogo laakiin waxay ku xiran tahay size-ka shirkadahaas iyo kuwan mid ka weyn waxaana xaqiiqa in kuwaas ay weeyeen faa'iidada kale oo laga helayo waxa waaye insurance wax la yiraahdo insurance-ga waxa waaye regional trade agreements-ka faa'iido waxay leeyihiin waxay insurance siiyaan ama caymis siiyaan wadanka ka tirsan haddii hal wadan musiibo ay ku dhacdo oo wax la yiraahdo shock ay ku dhacdo ama abaar ay ku dhacdo ama wadankaas dagaal uu galo ama ganacsi uu meel qof wadan kale kula dagaalo wuxuu haystaa wadamo badan oo heelinayo oo kabayo haystaa sida markii Greek crisis ay ka dhaceen 2012 iyo wixii ka dambeeyaba ee wadamada Yurub ay ugu gurmadeen oo kale lagu soo gurma doona haddii ay ku jirto heshiiskan ay ku jirto sidoo kale waxaa laga faa'iidaa wax loo protectionism oo ah wadamada oo developed countries-ka tartanka dhaqaale laga yaabo ama culays dhaqaale inay ku saaraan sidoo kale wadamadaana waxay ku noqonayaan garab markii ay ku jirto doodaas waa laga hor yimaadaa dad badan waxay yiraahdaan laba hadii ayaga dhan ay isku doon saaran yihiin hadii dhaqaale ahaan ayaga dhan isku mid yihiin tusaale marka Soomaaliya abaar ay ka dhacdo Kenya ka dhacdaa Ethiopia way ka dhacdaa of course waxay ka dhacdaa Burundi waa ka dhacdaa abaar hadii dhacdo hadii roobka la waayo East Africa oo dhan waxay noqotaa xaaladeeda dhaqaale way xumaataa sidoo kale reserve tiro badan oo isku caawiyaan haystaan waxa la marka faa'iido badan hadii urur xiriir ama heshiis dhaqaale oo ka dhaxeeyo wadamo hadda koraayo waxba isku ma galaan laakiin kuwa waxa isku gala waa markii kuwa qaarna developed yihiin kuwa qaarna ay yihiin developed yihiin laakiin guud ahaan insurances-kaas waxyaabaha laga helay kamid ah faa'iido kale ee laga helo waxa waaye coordination and bargaining power waxa la rabo bargaining power-ka waxa waaye wadamada markii ay heshiis ganacsi ay rabaan ama xiriir ganacsi oo inay dawlad kale la yeeshaan waxyaabaha oo gorgortanka dhaxmara waxa la yiraahdaa bargaining waxa waaye shuruucda wadamada la saarayo dhana waxay sheega laga wada hadlaa wadankan markii uu wadamo badan uu urur xiriir dhaqaale uu kula jiro wuxuu awood u gorgortan oo xoogan u leeyahay uu uga badan yahay wadamada kale uga badan yahay tusaale Kenya iyo Uganda waxyaabo meelaha ay wax u dhoofiyaan ay wax ka soo dhoofsadaan waxa kamid ah Sacuudiga kamid sidoo kale Sacuudi Soomaaliya waxay u dhoofisaa xoolo ay u dhoofisaa waxa dhacda mararka qaar marka xoolihii Soomaalida inuu joojiyo dhacdo haddii Soomaaliya ay East Africa ku beerto Sacuudi uu xoolaha Soomaalida joojiyo wadamada East Africa oo dhan waxay ku qasban yihiin inay la safataan Soomaaliya inay la saftaan Sacuudi marka Soomaaliya uu lumi karaa laakiin ma lumi karo East Africa oo dhan ma lumi karo sidaa darteed wuxuu ku qasban yahay inuu taxadar badan siiyo sida uu la macaamilayo Soomaaliya Sacuudi tusaale aan soo qaatay laakiin wadan kasta Soomaaliya xiriir dhaqaale uu kala dhaxeeyo hadda kadib Soomaaliya hadii lagu beero Soomaaliya bis ma fiirinayo sidoo kale wuxuu fiirinaa wadamada ku jiro dhan East Africa inuu fiiriyo ku qasban yahay waxay bargaining-kan uu faa'iido waliba siiyahay marka wadamada ay yihiin fragile yihiin wadamada aan awood ahaan aan wadamada dunida waxa loo kala saaraa small iyo large waxaan leeyahay wadan kasta ee saameyn dhaqaale ku yeelan kara ganacsiga caalamiga wadamada aan ku yeelan karin dhaqaalaha dunida suuqyada caalamiga saameyn waxa la yiraahdaa small countries kas marka waxyaabaha awood u yeelo inay saameyn yeelan karaan keena waxa kamid ah marka ay heshiisyo dhaqaale sida kan East Africa oo kale ay leeyihiin inta sadiya uga baxo waxyaabaha laga faa'iidi karo sidoo kale wuxuu leeyahay faa'iido darooyin uu leeyahay oo mar walba marka ma la galaa mise lama galaayo la isweydiinayo waxa la isbarbar dhigaa faa'iidada iyo faa'iido darooyinkaas la isbarbar dhigaa haddii aan ka bilowno faa'iido darooyinka kow wuxuu riski ama halis ku yahay
madax bannaanida waxa la isku yahay madax bannaanida waxaa la yiraahdaa waddan kasta ee dunida ka jiro wuxuu ilaaliyaa calanka wuxuu ilaaliyaa lacagta baasaboorka waxyaabaha oo identitieska ay uu ilaaliyaa waddankaas uu leeyahay waddamadan markii oo East Africa oo kale lagu biiro waddanka kow ma u lahaanayo madax canshuurta uu wax saarayo tusaale ahaan alaabaa waxay kaaga timaadaa India meeqa alaabta ka timaada ku canshuuray go'aankeeda Soomaaliya bas ma yeelanayso East Africa wixii ay go'aan oo ka gaartaa waxaa ku qasban tahay inaad fuliso sidoo kale waddamadan ayaga alaabta kaaga timaada canshuur misaari karto tusaale ahaan Soomaaliya hadda waxaa Kenya uga yimaada qaadkaas waa la canshuuraa Soomaaliya heshiiskan haddii la galo ma la canshuuri karo because of meesha marxaladda hadda ay marayaan waa single market ama economic union oo ah inaan labada wadan aysan issaarinin canshuur aysan issaarin waa haddii heshiiska uu dhaqan galo soo canshuurta uma madax bannaanaanaysid waxaad kaloo u madax bannaanaanaynin qiimaha lacagtaada inta uu noqonayo tusaale ahaan $1 hadda waxaa lagu sarrifaa 25,000 lagu sarrifaa $1 meeqa lagu sarrifaa go'aankaas waxaa yeelanaya bangiga dhexe ee ka dhaxay doono wadamadan ka dhaxaynaya maadaama ay rabaan common currency ay noqdaan sidoo kale lacagaha kale inta aad ku sarrifaysana waxa go'aankeeda yeelanayo bangiga dhexe yeelanayo ee wadamadaas ka dhaxay so lacagtana ma maamulaysid canshuurta ma maamulaysid maxaa lagu soo dhoofinaa maxaa lagu soo dhoofinin ma maamulaysid laakiin kaliya waxa u madax bannaan tahay waxa la yiraahdo sanitary and phytosanitary measures and steps oo ah haddii waxaan ay halis caafimaad dadkaaga ku yihiin oo kala wadiidi kartaa laakiin waa ina caddayn loo helo oo ah inay waxaan dhibaato dadkaaga ku yihiin oo asaas ku diiday laakiin ana diiday ma iska dhihi kartid waxaa dhacda mararka qaar cadaadis siyaasadeed lagu saaro Kenya in jaadka la joojiyo kale heshiiskan ma dhici karto in la saaro in la joojiyo ma dhici karto haddii la galo heshiiskan East Africa sidaa darteed waxaa meesha ama qayb weyn ku yeelanaya oo meesha ka baxayo maamulkii ama madax bannaanidii waddanku u lahaa canshuuraha iyo waxyaabahaas inuu asaga maamulo qasaaraha kale ama faa'iido darrada kale uu leeyahay waxaa waaye faa'iido darrooyinkiisa sidoo kale waxaa kamid ah waddanka wuxuusan maamulaynin ama wuxuu luminaa waxa la yiraahdo currency control ma maamulayo lacagtiisa ma maamulayo wuxuu maamulaynin qiimaha lacagtaas markuu rabo ma daabici karo oo lacagaha haddii common ay noqdaan lacag la wada share garay haddii tahay hal institution soo saarayo oo wadamadan ka dhaxay sida darteed tirada lacagta adiga ma control kartid waddanka sidoo kale sarifka asagana ma maamulayo sarifka la qaadanayo wuxuu noqonayaa wax la yiraahdo managing float Soomaaliya oo kale maadaama ay IMF rabto in ay deyn cafis ka hesho deyn cafiskana gadaal aan u hadli doonaa hadii ila yiraahdo managing float ma qaadan karto oo ah in range ama meel xad u dhaafi karin loo sameeyo xad u aadan dhaafi karin ma sameey kartid hadii IMF rabto in heshiiska IMF la helo ama deyn cafiska la helo sababtoo ah waxa shuruud ayada oo ah inuu noqdo flexible ama floating inuu noqdo shuruuda sidoo kale waxaa meesha ka baxayso monetary policy ama siyaasadda lacageed ee bangiga dhexe oo awood u lahaa bangiga dhexe inuu control baaga muddada sicir bararka lacagta dulsaarka sarifka tirada lacag suuqa ku jirayso awoodda wax gadasho oo uu dhammaan controli jiray bangiga dhexe hadda kadib ma controli karo waxaa controlayo bangi ka dhexeeyo wadamadaas ka dhexeeyo waddanka inuu lacagtiisa controli karo faa'iidooyin badan ay leedahay faa'iido waxaa kamid ah tusaale wadamada East Africa haday markii aan ka hadlay trade pattern-kooda waxa soo sheegnay wadamadaas waxay ku jiraan deficit ku jiraan oo hoos u dhac oo dhaqaale ama hoos u dhac ganacsi ku jiraan hoos u dhac ganacsi laba option meesha looga saaro waxa la yiraahdaa adjust or finance adjustment waxa waaye waxa lagu soo dhoofiyo canshuur saartid marka waxa lagu soo dhoofiyo canshuur saartid waxaas qaali noqonayaan dadka gadi jira way yaraanayaan soo wixii mar dambe lama soo dhoofinayo tiro badan laga soo dhoofinayo laakiin wadamada oo hadda oo hidariska kula oo ganacsiga kula jirtay canshuur ma saari kartid hore waxa ugu soo heshiiseen inaadan canshuur is saareen sida darteed deficit ma manage gari kartid
wadamada banaanka oo ayaga aan ahayn canshuur inta la saarayo ayadana waa laga heshiiyey sidoo kale ayadana ma maamuli karto sidaa darteed optionkaas kuma furno haddii wadan uusan canshuur saari karin waxa loo soo dhoofiyo khiyaarka u furan wadanka waxaa waaye qiimaha lacagtiisa inuu hoos u dhigo waxaa la yidhahdaa currency manipulation qiimaha lacagta wadanka markii uu hoos u dhigo waxaa u suurtoobaysa inuu wax badan dhoofiyo wixii dibadda ka imaanayana qaaliya noqonayaan sidaa darteed ajaanibta hadda kadib faa'iido badan ka samaynayaan inay wadankaas wax u dhoofiyaan waxaa Angola 2015 iyo wixii ka dambeeyay dad badan oo Soomaaliya maal gashtay dowladda Angola ma aysan jeclaysan sidaa darteed waxay hoos u dhigtay qiimaha oo kawaasa lacagta oo Angola dad badan oo Soomaaliyeed ku qasaaray arrin hadda inay og yihiin qasaarahaas mid dowladda inay samaysay inay tahay in kale laakiin qasaaraha ku dhacay waa mid ay ku talagal dowladdaas ay u samayso oo ahaa in ajnabiga ay ka saarto suuqyada ay ka saarto currency devaluation Allah dan marka si wax soo saarka awood wax dhoofintaada u badiso waxa lagu soo dhoofinayana ay iska yareyso qiimaha lacagtaada ma maamuli kartid hadda kadib adiga waxa qiimaha lacagta gooyo ee bangiga dhexe ee ka dhaxeynayso wadanka wuxuu lumi doonaa wixii la dhihi jiray controlkii lacagtiisa uu lumi doonaa haddii uu ku biiro East Africa uu ku biiro sida uu qabo heshiiska waxa la yiraahdo common market protocol oo ay saxiixeen wadamadan 2013 waxaa loo ogol yahay dadka ku nool wadamadaas inay meesha rabaan ay ka shaqaysan karaan sida darteed waa citizenship ay helayaan meesha rabaan ay ka shaqay karaan haddii marka wadamada ay movement of labor ama isku socod shaqaalaha uu wadamadaas ka dhaxeeyo wadanka mushaarkiisa uu badan yahay qasaaraya waxaana faa'iidaya wadanka mushaarkiisa uu yar yahay Kenya iyo Soomaaliya markaa isbarbarin celcelis mushaarka Kenya waxa waaye 15,120 shilin waaye $120 ay u dhigantaa celceliska mushaarka Soomaaliya $160 waaye macnaheedu waxa waaye qofka Kenyaanka ee Soomaaliya yimaado wuxuu Kenya inuu kula noolaado u baahnaa $120 sidaa darteed wuxuu faa'iidaa $40 u faa'iidaa qofka laakiin Soomaaliga ee Kenya tago wuxuu soo helaa $120 weli wuxuu u sii baahan yahay si Soomaaliya nolosheedu uu u kabo $40 u badan sidaa darteed waxaa $40 faa'iido badnaanaya qofka Kenyaanka ee ka shaqeeyo Soomaaliya ka shaqeeyo sidoo kale Soomaaliya mushaarka waxaa lagu bixiyaa dollar lagu bixiyaa sidaa darteed $120 ee Kenya ka qaadato waxaa mar walba riski ay ugu jirtaa inay qiimaheeda uu hoos u dhaco marka walba sarifku uu isbedelo laakiin qofka $160 qaato markuu Kenya taga lacag badan uu ku sarifaa sidaa darteed weli wuxuu sii haystaa faa'iido haystaa waxyaabahaas waxay dhiirigelinayaan dad badan oo Kenya ama ajaaniba oo East Africa u dhashay inay Soomaaliya u soo shaqo tagaan dad badan oo Soomaaliyeedna aysan u tagi karin banaankiisa shaqo u tagi karin waxa kale oo arrin kale waxa jirto oo dhaqan la xiriirto oo ah in Soomaalida iyo wadamadan East Africa markii la isbarbar dhigo ay ka shaqo badan yihiin dadkaas ay ka shaqo badan yihiin oo haddii asaga iyo qof Soomaaliya ay shaqo ku tartamaan shaqooyinkan serviceka iyo waxyaabahaas la midka waxa ka hadlayo dadka aan xirfadda ku shaqeynin waxay u badan tahay inuu shaqada helo qofka ka yimid East Africa ka yimid dowladda Soomaaliya marka haddii ay aragto inay ajaanibti shaqooyinka qaadanayaan waxay samayn kartaa inay mushaaraadka bedesho kale ama canshuurta ay saartay income taxiga ay bedesho labada khiyaarba ma furno sababtoo ah heshiiska waxay ku jirtay sharciyo oo economic and social policy isku mid in la qaato sidaa darteed waxay dowladda fiirsanayaan shaqooyinka dadkan qaadanaya laakiin waxba ma ka qaban karto sidaa darteed waxay halis ku tahay shaqo helista ay halis ku tahay haddii la galo heshiiskan haddii la galo caqabadaha kale uu leeyahay waxaa kamid ah ama waxyaabaha kale oo aan faa'iidooyinka ahayn ama khasaaraha waxaa kamid ah waxa la yiraahdo foreign direct disinvestment oo ah maalgashiga Soomaaliya oo caalamiga ahayd oo ay heli jirtay inay uu yaraanayo ama hoos u dhacayo waxyaabaha priority Soomaaliya oo ah sida aan media iyo ka arkaa aan ka hadlaa wax Soomaaliya priority ama qayb weyn oo ah inay Soomaaliya soo jiidato maalgashi caalami waxa maalgashigaas raadiyo wadamada ku yaalo East Africa oo dhan raadiyo iyo Africa oo dhan guud ahaan aan dhaho inay ku helaan ajaanib maalgashada ay helaan
wadamadaas marka foreign direct investment-ga waa lacagta ajaanibta ay ku maalgeliyaan dhaqaalaha gudaha ay ku maalgeliyaan wadanka gudihiisa ay ku maalgeliyaan lacagahaas marka wadanka markii ay maalgelinayaan waxay ka fiiriyaan kow market size-ka waxa la dhaho wadankan suuq intee leeg population intee leeg uu leeyahay si ay u gataan sidoo kale awoodda waxgadasho watii hadaya aan ka soo hadalno waxyaabaha ay fiiriyaan kamid ah haddii marka dowladda Soomaaliya ay rabto inay maalgashi caalami ah soo jiidato waxay ku qasban tahay waxyaabaha dadkaas ajaanibta ay ka ganacsanayaan ama Soomaaliya laga ganacsan karo inay attractive ka dhigto wax soo jiidasho leh ay ka dhigto oo dadkaas ay ku qalqaaliso laakiin markay Soomaaliya ka mid tahay East Africa Community ay ku jirto waxay wadamada awood u leeyihiin inay xarumo ka samaystaan Kenya iyo Uganda alaabtoodana ay weli u soo diraan Soomaaliya u soo diraan sababta waxa waaye marka oo la maalgelinayo waxaa la fiiriyaa wax loo political stability and political risk wax loo waxaa kaloo la fiiriyaa wax loo easy of doing business wadankan ma fududahay in ganacsi laga sameeyo waxyaabahaas easy of doing business rankiga meesha ugu hooseysa Soomaaliya ugu jirta wadamadan kale kulligood way ka sareeyaan Soomaaliya sidaa darteed haddii uu heli karo qofka ajnabiga inuu alaabtiisa Soomaaliya u suuq keeno xaruntiisana oo Kenya ka dhigo wuxuu sameynaa xaruntiisa wuxuu ka dhigaa Kenya oo alaabtan wuxuu u suuq geynaa Soomaaliya si ay dawladdu uga jawaabto arrintaas waxay ku qasbaneed inay alaabahaas canshuur saarto kadibna ay dhahdo canshuurtan waxaa laga dhaafaa markii aad gudaha maalgashid laakiin canshuur ma la saari karo heshiiskii waxay ku jirtay alaabta kaaga imaanaysa wadankaas Kenya in lagu soo saaraa ku qoran sidoo kale ma celi kartid oo heshiisa hore ugu gashay sidoo kale waxyaabaha maalgashiga oo lagu soo saaro waxaa lagu dhiirigeliya waxaa kamid ah waxa la yiraahdo domestic content requirements Mareykanka oo kale wax kasta oo u suuq geynayso marka hore waxa ay ka samaysan yihiin 50% inay Mareykanka timid sala hadii aad rabto inaad u suuq geyso Mareykan biyo cambe inaad u suuq geyso hadii aad rabto ama caaga ama biyaha waa inay ama cambaha waa inuu mid kamid ah ka yimid marka hore Mareykan uu ka yimid hadii kale ma suuq geynaysid wadamada badanaana way leeyihiin wadamada 100% tahay wadamada 40% tahay laakiin waxa la yiraahdaa domestic content requirement sidoo kale ayadana lama sameey karo sababtoo ah heshiiska kuma jirto siyaasad kala duwan in la qaato haddii ay siyaasad Kenya iyo Uganda iyo Tanzania aysan ahayn wadamadaas in la saaro waxyaabahaas ama shuruudahaas lagu xiro haddii aysan ahayn kaliya uma madax banaanidina ku xirtay sidaa darteed waxay caqabad ku tahay in lagu biiro East Africa maalgashiga caalamiga ahayd oo ay Soomaaliya raadi jirtay ama uu ahaa priority weyn uu ahaa qodobka kale faa'iido uusan ugu ahayn in lagu biiro waxa waaye waxa la dhaho wuxuu contradiction ku yahay ama wuxuu ka hor imaanaa barnaamijkii ahaa deyn cafiska barnaamijka Soomaaliya laga soo bilaabo 2017 arno waxay Soomaaliya raadinaysay inay hesho deyn cafiskaas marxalado badan oo soo maray hadda mar dhow 2020 waxay timid wax la yiraahdo decision point waxa waaye meesha looga gaaro go'aanka wadankan deyn cafiska iyo inta la siinayo iyo meelaha iyo shuruudaha laga rabo iyo meelaha lagu go'aanka looga gaaro waa markii waxyaabihii kugu aruuray deynkii ma laakiin dulsaarka ay iska soo bixiso hadda deyn in laga cafiyo diyaar ma u tahay meesha go'aanka looga gaaro marxaladda ku xigta oo Soomaaliya inay ka gudubto ay rabto waxa waaye completion point waxa la dhaho completion point-ga waxa waaye waxa laga cafinaa intii lagu qiimeeyo wadankan laga cafiyo already some report-ka IMF waxa waaye Soomaaliya 10% lagu yeelanaa inta kale waa laga dhaafaa 90% laga cafinaa aydanka Afghanistan 90% laga cafiyo Liberia 90% laga cafiyo Soomaaliya 90% laga cafi doona 10% kale inay iska bixiso way deyn cafiskaas iyo marxaladaha uu maro iyo kadib deyn cafiska maxaa xigi doono marar kale aan ka hadli doono hadii ilaahay raaxo laakiin tan hadda maanta aan ka hadlayna meesha uu ka saameynayo waxa waaye deyn cafiska afar shuruudood oo asaasi ah ku xiran shuruudahaas marka waxa kamid ah wadankan Soomaaliya waa inay ay hesho waxa loo ama ay samayso domestic revenue mobilization oo ah revenue qayb badan oo kala bar ku dhawaad
waa inay ka soo aruuriso gudaha ay ka soo aruuriso ama dakhliga dowladda Soomaaliya soo galo gudaha wadankeeda ay ka qaado inay kor u qaado haddii dakhligaas uu bato macnaheedu waxa waaye waxay awood u yeelanay deynka inta ku hartay inay iska bixisay awood u yeelan dakhliga marka inuu bato waxay dakhliga ugu badan ay Soomaaliya ka soo galaa waxa waaye service tira badan oo dowladda ay gadama jiro meelaha marka dakhliga wuxuu badanaa ka soo galaa canshuurta dowladda ay qaado canshuurta ay ka qaado tekada iyo airportka ay ka qaado canshuurahaas marka qayb badan oo kamid ah waxay ka yimaadaan qaadka waxay ka yimaadaan waxyaabaha kale ee Kenya inaga nooga yimaado sidoo kale waxaa la canshuuraa waxyaabaha aan dhoofinayna waa la canshuuraa haddii heshiiska aan la galo marka wadamadaas waxa ka yimaada ma la canshuuri karo oo inaan lis canshuuraynin waxay kamid tahay waxyaabihii hore loogu soo heshiiyay kamid tahay inaan la canshuur la kala qaadin haddii canshuurtaas aadan qaadin sidoo kale waxyaabaha meelaha dakhliga dowladda ka soo gala waxaa kamid ah dadka wadamadaas u dhashay ee gudaha jooga oo u baahan work permit visa u baahan deganaansho u baahan oo lacag ka qaado $1,000 $1,200 lacag ku dhawaa ayaa laga qaadaa lacagtaas lagama qaadayo qofka uu deganaanshaha wuxuu la mid yahay qof wadankiisa jooga la mid yahay hadii la gaaro heshiiska common market hadii la galo economic union ka soo hadii la galo soo dakhli badana meeshaas ku lumi doono hadii dakhliga dowladda soo galo uu yaraado deyn cafiski shuruudda deyn cafiski waa laga fogaanaa sidoo kale IMF inay wadan Soomaaliya deyn ka cafiso ama wadan kastaba inay deyn ka cafiso shuruud kale oo ku xiran waxa waaye wadankaas waa inuu meesha ka saaro wax la yiraahdo balance of payment deficit oo ah wixii ganacsigiisa hoos u dhici ku imaan jiray ganacsigiisa inuu meesha ka saaro inuu yareeyo hoos u dhaca ku yimid deficitka waxa lagu dhahaa waa economic hoos u dhacaas inuu yimaado ama hoos u dhacaas waa waxa keenay marka hore inuu deyn qaado sababtoo ah heshiiskii Bretton Woods ay galeen oo lagu aasaasay IMF iyo World Bank ujeedadii Keynes uu sheegay ama John Maynard Keynes wixii uu soo jeediyay in IMF-ta loo aasaasay waxay ahayd wadamada ganacsiga oo ka dhaxeeya si aysan canshuuro isku saarin wadanka hoos u dhac dhaqaale uu hoos u dhac trade-ka ama ganacsiga uu ku yimaado waa in la helo meel uu deynka sii qaato si uu iskaga bixiyo so IMF-ta deynka ay bixiso oo laga qaato waa deynkaas ugu kabayo ganacsiga waana deynka Soomaaliya ay qaadatay 86 ay qaadatay si marka aadan deyn kale ugu baahanin hoos u dhacaas ganacsi waa inaa meesha ka saarto hoos u dhaca ganacsiga wuxuu yimaadaa mar walba oo waxa lagu soo dhoofinayo ay ka bataan waxa adiga aad dhoofinayso Soomaaliya waxa ay dhoofiso dhaqaalaheeda 8% bas waa 92 waa waxa uu importiga ka yahay waxyaabaha ay la isticmaalo so balance of payment Soomaaliya deficit uu ahaa weligiis deficit uu ahaa si deficitkaas meesha uga saarto laba option ah ku furan optionka koowaad waxa waaye ajaanibta wax ku soo dhoofisa canshuur saar si ay u yareeyaan waxa ay soo dhoofiyaan optionka labaadna waxa waaye qiimaha lacagtaada hoos u dhig si waxa adiga aad dhoofinaysa ay raqiis u noqdaan oo ajaanibta ay wax badan kaaga gataan sidoo kalena waxa ay ajaanibta keenaan gudaha ay qaali u noqdaan oo ay u gadmi waayaan sidaa darteed waxa aad dhoofinaysa ay u bataan waxa lagu soo dhoofinayaan ay u yaraadaan shuruudaas ma la gaari karo sababtoo ah waxa waaye bedelka lacagta ku saameyn lahayd ganacsiga ma sameey kartid sababtoo ah qiimaha lacagta wadan inta uu noqonayo go'aankeeda waxa iska leh bankiga dhexe ee wadamadaas ka dhaxeeya qiimaha iska leh sidaa darteed bankiga Soomaaliya ma go'aansan karo meequu noqonaa qiimahaas lacagta meequu noqonaa sidoo kale shuruud kale oo ku xiran waxa waaye in la yareeyo faqriga in la yareeyo haddii sababtoo ah programkan deyn cafiska Soomaaliya 2006 loo ogolaaday waxa la yiraahdaa HEBIS High Indebted Poor Countries barnaamijkaas IMF-ta waxay u samaysay wadamadan waa faqri deynka aan ku leenahay aan ka cafino si lacagta ay anaga noo gudi lahaayeen ay ugu isticmaalaan inay ku yareeyaan faqrigooda ay ku yareeyaan faqriga goormuu yaraadaa ama tilaabada koowaad oo faqriga lagu yareeyo maxaa waaye tilaabada koowaad oo faqriga lagu yareeyo waa in kor loo qaado shaqo helista ama shaqo abuurka kor loo qaado haddii marka ajaanibta ay awood u leeyihiin inay wadankan ka shaqaystaan shaqo abuurka dowladda waxa ka faa'iideysanaya muwaadinkii iyo ajnabiga ka faa'iideysanaya haddii shaqadaas markay ajaanibta helaan dadkii wadankan u dhashay ee faqriga ahaa faqrigoodu ma yaraanayo wuxuu faqriga yaraanaa wadamadaas dadka ka yimid oo ajaanibta oo yaraanaa so ayagana hadhow waxay u noqon doontaa remittance inflow ama capital inflow waxa la dhaho oo kamid ah
waxyaabaha kabaya ganacsigooda ee caalamiga kabaya ka mid ah sidaa darteed barnaamijka deyn cafiska waa laga fogaanaa ama waa adkaanaya in la fuliyo haddii la galo East Africa Community haddii la galo wadamadan ayaga waxaa jira challenges ama caqabado haystaa jiro oo uusan ururka sidii la rabo uusan u noqonin laga soo bilaabo 99 ilaa iyo hadda waxa ugu badan oo ay ku guuleysteen waa movementska ama waxa la dhaho suudaha iyo ayaga inaysan isku celin waxa ugu badan oo ay ku guuleysteen laakiin sida kale dhaqaale ahaan weli waxay farqi weyn u dhaxeeyo caqabadaha oo farqaalahooda inuusan iskabinna waxa waaye ayaga dhan waxay ku saleysan yihiin waxa la dhaho primary sector oo ah waxay ku saleysan yihiin beero waxay ka shaqaystaan beeray ka shaqaystaan sida darteed waxna ma kala gada karaan waxna iskuma gudbi karaan waxa oo ay isku gudbiyaana badanaa waa waxa ay ka yimaado waxyaabaha la xiriira technology-ga oo ka yimaado wadamada China India Mareykan ka yimaado waxyaabahaas marka haddii suuq ay loo helana wax East Africa iyo faa'iideysa maaha waxa faa'iidaya wadamadii soo saara faa'iidaya shaqo abuurka wuxuu ka dhacaa wadanka oo exporting-ka wuxuu helaa shaqo abuurka wadanka importing-ka ma helayo shaqo abuurka caqabadaha marka East Africa haysto oo aysan weli inaysan guulo badan ka gaarin ururahan u gaarin waxa kow ka waxa la yiraahdo overlapping membership issue wadamadan waxay ka tirsan yihiin dhowr urur ka tirsan yihiin marka fiiriso tusaale ahaan Tanzania oo wadan dhaqaale ahaan weyn Tanzania Magufuli ka hor waxay ahayd low income waxay noqotay hadda middle income dhaqaalaheeda aad u fiican yahay Tanzania waxay ku jirtaan waxay ka tirsan tahay East Africa sidoo kale waxay ka tirsan tahay SADC oo ah South African Development Community Tanzania sidoo Burundi iyo Rwanda waxay ka tirsan yihiin East Africa sidoo kale waxay ka tirsan yihiin COMESA oo ah Common Market for Eastern and Southern African Countries COMESA ka tirsan yihiin Kenya waxay ka tirsan tahay East Africa sidoo kale waxay ka tirsan tahay IGAD Soomaaliya waxay ka tirsan tahay IGAD waxay kaloo raadinayaan inay ku biirto hadda East Africa COMESA ayaan waa loo soo bandhigay inkastoo document Soomaaliya diiday arkay haddana waxa la yiraahdaa dalabka Soomaaliya ma la aqbalin oo ah COMESA overlapping membership-ka waxa waaye tusaale markaa soo qaato Kenya aan soo qaato tusaale aan u soo qaato Rwanda oo ku jirto East Africa iyo COMESA ka tirsan oo kale East Africa waxay ku heshiiyeen ayaga dhexdooda inaysan isa saarin canshuur laakiin wadan kasta oo aan ayaga ahayn ay canshuur saaraan COMESA sidoo kale waxay ku heshiiyeen inaysan canshuur ayaga isa saarin wadan kasta oo ayaga banaanka ka ahna ay canshuur saaraan Rwanda marka Kenya waxay kula jirtaa inaysan canshuur saari karin kula jirtaa wadamada COMESA ku jirana waxay kula jirtaa inaysan canshuur saari karin kee dooranay xagee aadi sidoo kale Soomaaliya markay ay ku biirto East Africa ay ku biirto Soomaaliya waxay ogolaanayaan inaysan Kenya iyo Rwanda iyo Uganda canshuur saari karin laakiin waxay canshuur saari doontaa wax la yiraahdo waxay saari doontaa Djibouti oo ah wadan Soomaaliya aad iskugu dhow yihiin heshiiska wuxuu qoraa tusaale ahaan Kenya waxay ma saarisid Djibouti 10% saaray oo kale Soomaaliya marka waxay ku qasban tahay in ama Djibouti doorato ama East Africa ay doorato ku qasban tahay wadamadaas marka overlapping oo ah waxa kula heshiisay wadan X waxa kula heshiisay canshuur inaadan asaga saarin wadan kuwa kala asaaraysa wadan Y na waxa kula heshiisay inaasan asaga canshuur saarin oo kuwa kala asaaray soo xagee aaday waa caqabada koowaad oo haysato wax la yiraahdo overlapping caqabada labaad waxa waaye cultural-ka iyo luqadda oo aan ku kala duwanay Kenya markaa fiiraysid Human Development Index HDI Kenya waa 53 ay haysataa oo ah meel dhexdhexaad Soomaaliya HDI ama Human Development-ga aad u hooseeya sidaa darteed dadka xirfadda leh shaqo waxay ku badan yihiin Kenya iyo Soomaaliya Kenya ku badan yihiin Uganda iyo Soomaaliya Uganda ku badan yihiin Soomaaliya marka marxaladda dhaqaale ee tan hadda ay joogto ku xigto waxay u baahan tahay xirfadlayaal badan oo ka shaqeeyo jaamacadaha warshadaha hadii la helo ka shaqeeyo hadii sidoo kale shidaal la qodo dad badan oo ka shaqeeya maalgashiga financial system-ka maamulay u baahan tahay oo ajaanib
dadkaas marka waxa Soomaaliya ay soo gelinayaan iyo waxa Soomaaliya ay ka helayaan waxa ay soo gelinayaan tusaale ahaan badan maadaama development contribution ay yeelanayaan laakiin waxay ku hadlaan English iyo Swahili ku hadlaan Swahili Soomaalida waxay ku hadlaan af Soomaali bas waxa caqabada marka see isku fahmayaan waxa aad u adkaanay qofka Kenyaanka ama East Africa ka yimid ee professionalka ama dhakhtarka ama engineerka inuu dadka Soomaaliyeed la shaqeeyo aad u adkaanay sida darteed faa'iidadii laga heli lahaa dadka ayaga nooga imaanaya waxaan loo helaynin language-kan ku kala duwanaa sidoo kale waxaan ku kala duwanahay culture-ka waxaan ku kala duwanahay wadamadaas waxay u badan yihiin wadamo Christian ay u badan yihiin dhaqanka diinta waa ku kala duwanaa waxa kale oo ayadana imaashaha dad badan oo ayaga kamid inay imaata caqabada waxyaabahan oo health-ga iyo la xiriira dhaqanka la xiriira Kenya oo kale 6% waa population-kooda dadka AIDS-ka qaba Uganda 5.8 ay population-keeda ka yihiin dadka AIDS-ka qaba Soomaaliya 0.1 waa wax 1% ka yar haddii marka dad badan oo ayaga kamid ah dadkaas ay Soomaaliya inay ku noolaadaan dhacdo ay yimaadaan oo ay dadka la noolaadaan waxaa dhici karta sidoo kale saameyn aan wanaagsaneyn oo caafimaad inay ku yeelataa dhici karta sidoo kale see u arkaan nolosha iyo qaabka annaga aan u aragnaa aad u kala duwan waxayna u badan tahay anigoo ku xisaabtamaya ajnabi jacaylka dadkeena inay aan dhaqankooda qaadano sidoo kale dhici karta caqabada saddexaad waxa waaye waxa la xiriiro infrastructure-ka waxa waaye regional integration ama wadamada dariska waa isku socodkooda inuu aad u fiican infrastructure waxyaabo badan ku jiro waxa ku jira korontada waxa ku jira biyaha waxa ku jira wadooyinka isgaarsiinta transportation-ka tekadaha aeroportka waxaas oo dhan waxay ku jiraan infrastructure-ka ku jiraan regional integration-ka marka si fiican uma shaqeynaan haddii aan isu gudub ka dhaxayn Soomaaliya waxyaabo badan oo aysan beeranay jirto oo Kenya ay beerto caleenta kamida qudaarta qayb badan oo kamida tusaale waxa arkay baradhada Soomaaliya kala qaali waa Kenya aad raqiis u tahay kale oo Kenya way ka baxdaa Soomaaliya dibadda laga keenaa ma hubo inay baxdo dibadda badankeeda laga keenaa waxyaabahaas laakiin diyaaradna lama soo saari karo markabna lama soo saari karo waa inay baabuur soo qaadaan jiday soo maraan baabuurta marka ma jirto haddii jidkan ay soo maraan oo waqti dheerna ay soo socdaan caqabad East Africa oo dhan haysatay inkastoo ay tahay shayga faa'iido laga rabo laga helayo lacag qaali ah oo tii hore ka badan oo ku imaana Soomaaliya mana laga faa'iidayo waxaana inaan la faa'iidin ama faa'iidaas meesha ka saaray infrastructure-kii oo liitam sabab u noqday sidoo kale waxa Soomaaliya aad qaali ah korontada maadaama korontada ay qaali tahay waxa aad u adag waxa industrialization in la gaaro in warshad la sameeyo aad u adag sababtoo ah korontada hadda jirto awoodna uma lahan aadina qaali u tahay haddii marka industrialization la rabo industrialization-ka East Africa waxyaabaha hadda ka socday kamid ah waa laga faa'iideysan karaa tusaale ahaan waxyaabaha ay Soomaaliya hadda aad ugu baahan tahay oo ah primary ama agriculture allied industries ka waxa la waxyaabaha oo ka soo baxo beeraha in la process gareeyo waxa mar walba oo Soomaaliya dhacdo cunada inay qaali noqoto mararka qaar shay oo in la waayo oo storage facilities ay u baahan tahay storage-ka ama warshadaha waxaas process gareey karo wadamadan East Africa way ku fiican yihiin in la helo waxa caqabad ku sidoo kale infrastructure waxa anaga inta ku sameeyay inaan u dirno ayagana waxa caqabad ku ah jidad oo la maro aan heli karin sida darteed infrastructure la'aanta waxay meesha ka saartaa faa'iido kasta oo laga heli lahaa xiriirka dhaqaale ee Soomaaliya iyo wadamadaas oo dhaxmaray infrastructure-ka marka tusaale China markii 2000 wixii ka dambeeyay oo yimid Africa China waxay rabtaa inay takadamba baase ka soo dejiso alaabta Congo iyo geesay rabtaa so waxyaabihii caqabadihii koowaad oo qabsada wadada kamineed that's why dawladda China ay lacag badan u geliso jidadka Africa ay lacag badan u geliso haddii marka East Africa aysan infrastructure-ka ka wada shaqeynin oo wadamadaas wadamo isku furan aysan noqonin ma la helayo faa'iido ma laga helayo oo in la kala xirnaado dhici doonto caqabadaha kale waxa kamid ah wax la yiraahdo institutional issue waxa waaye wadamadan waxa markii la shiraayo madaxdooda shirto laakiin madaxweynaha ma fuliyo go'aamada ma fuliyo waxa fuliyo dad oo technocrat oo institutions ka shaqeeya fuliyo tusaale ahaan canshuur markii laga hadlayo waa institutionska revenue authority ka shaqeeya inay isla qabtaan
markii laga hadlayo trade-ka waa institutionska ka shaqeeya ganacsiga ka shaqeeya iyo standardization-ka inay ka wada shaqeeyaan lacag markii laga hadlayo bangiyada in dhexe inay ka wada shaqeeyaan employment markii laga hadlayo sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe inay ka wada shaqeeyaan wasaaradaha qorsheynta markii maalgashi laga hadlayo inay ka wada shaqeeyaan institutionskaas marka hadiisan awood lahayn awoodda institutionkana waxaa lagu qiimeeyaa awoodda dadka shaqeeya ee aan ahayn leadership iska aan ahayn tusaale wasiirka oo kale ma u malaynayo wasiir report inuu qoro laga rabo inuu jiro ma u malaynayo therefore institutionska ka shaqeeya integrationka ama wada shaqeynta dowladahaas ka shaqeeyo institutions xoog badan inay yihiin East Africa waxaa caqabad ku ah marka institutionskaas corruptionka wuxuu ku yahay caqabad musuqa tusaale ahaan Soomaaliya haddii Soomaaliya laga rabo in canshuurta ay dhinto kale tusaale ahaan wadamada aan ku jirin heshiiskan laga rabo inay canshuur saarto kuwa kalena ay canshuur ka qaado meelaha canshuurta laga go'aansado haddii uu ka jiro corruption heshiiska in la fuli waayo dhacayso haddaan heshiiskaas la fulin mar walba waxaa soo laalaabanaya muranka ganacsi ee dowladahaas ka dhexeeya murankaas ganacsina wuxuu keeni doonaa in la kala tago keeni doonaa taariikhda markaa fiiriso organizationska ama economic integrationska baa burburay ama aan waxtarka yeelan markaa fiirisana waxaa sabab u ahayd waxay yeela waayeen wax fuliyo tusaale ahaan GATT oo kale General Agreement on Tariff and Trade inay burburto waxaa sabab u ahayd wax fuliyo oo aysan institution oo rangareeyo fuliyeysanay soo marka heshiisyadan wax warqad ku yaal bas ay noqonayaan institutionska ka shaqeeya lahaa haddii si jirin sidoo kalena ama aysan awood lahayn oo kale intaasaan rabaa inaan ku ekeeyo waa mahadsantihiin haddii ay su'aalaha jiraan waxaan ku wareejinaa Ustaad Cukaash oo barnaamijka noo rangareynay waa mahadsantihiin Ustaad Nuur aad iyo aad mahadsan tahay it was very insightful presentation dhegeystayaasha iyo kasoo-qaybgalayaasha waxaa mar kale xasuusinaa haddii ay jiraan wax su'aalo ah inay soo qoraan qaybta bogska ustaadi waxaa jira ilaa iyo 6 su'aal hadda lasoo qoray su'aalaha qaarkood waxaa uga jawaabtay presentation intuu socday waxaan jeclaan lahaa intaad fiirisid kuwa ugu habboon inaad dhegeystayaasha uga jawaabtid ساعدونا هذه سؤالها كو اخري سؤال كواد waxaan soo weydiiyey Cabdiqani Saciid su'aashiis waxay tahay waa maxay caqabadda ugu weyn ee Soomaaliya ku mi karto haddii ay ku birto East Africa Community waxa waa challenge ugu weyn ku mi karto sidoo kale waa maxay fursadaha ay ka heli karto East Africa Community markii loo bandhigo ururada kale ee Soomaaliya mid ka mid ah qayb ka mid ah Arabta oo ah IGAD iyo COMESA su'aashan ka bilaabo Cabdiqani waa mahadsan tahay caqabadda ugu weyn caqabadaas markii aan fiiriyo waxa waaye Soomaaliya dhaqaale ahaan wadamadan way ka tabar yartaa markii kobac la fiiriyo populationka dadkooda markii la fiiriyo waxa ay dhoofiyaan markii la fiiriyo waxa marka dhici karta in Soomaaliya inuusan heshiiska noqonin interdependence sida oo ku qoran xeerka uu dependency noqdo Soomaaliya inay ku tiirsanaato noqdo sidoo kale marka hore sida ay gelistiisa u fududahay waxaa laga yaabaa ka bixista ma fudud oo inaad ka baxdo oo kale sababtoo ah wadamadii ku jiro dhan inaad la dagaasho wadamo oo Soomaaliya saameyn weyn ku leh dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan ku leh oo kale sidoo kale Soomaaliya ma lahan system siyaasadeed oo
la yaqaano oo meesha u socdo la ogyahay ma jiro waxay ku xiran tahay qofka markaas siyaasadda hogaamiye ku xiran waxaa dhici karto in 2024 ama 23 lagu biiro 2027 laga baxo haddana ama sidii la rabay heshiisyadii ay loo fulinaa dhici karto ayadana sidoo kale waxay noqonaya caqabad sababta waxay tahay caqabadaha tusaale systemkan ku biirista waxaa qasaba reform in la sameeyaa qasaba waxaa la bedelaa sharciga shaqaalaha kii canshuurta kii maaliyadda kii lacagaha waxaasoo sharciya oo dhan in la bedelo waa oo dhaqaalo badan oo wadanka ku yeelanaya khasaaraha ugu weyn oo aan arkayo kaas waaye faa'iido ugu badan oo aan helino waxaa waaye Soomaaliya oo kale waxay ku tiirsan tahay beeraheedana aad ma horumarsana sidoo kale waxaan yaabaha anaga aan isla beeraha dibadda ka keena waxaa kamid ah waxaan ka keenaa dibadda doorada ukunta mararka qaar moos cambe la keenaa jiro qudaar badan oo laga keenaa jiro qudaarahaas marka hadda dad Soomaaliyeed soo gato ayagaa la canshuuraa indirect saameynay ku leedahay heshiiskaas hadii la gal marka waxaa si fudud in looga ganacsado qudaartaas oo Soomaaliya ay u timaada dhacayso sida darteed improvement badan waxay ku sameeyeen welfare-ka dadka gaar ahaan wax la yiraahdo food security-ga oo dadka Soomaaliyeed oo kale way horumarinayaan sidoo kale haddii aan rabno inaan industrialization u gudubno waxa u baahanahay dad xirfadlayaal oo badan u baahan tusaale warshad marka la rabo in la sameeyo waxa u baahanahay mechanical engineers u baahana shidaal marka la rabo in laga shaqeeyo geology ama petroleum engineers u baahana dadkaas injineerada jaamacadaheena iyo kambaniyadeenna ma awoodaan inay diyaariyaan hadda sida darteed wadamadan waxay nooga horeeyaan dhinaca human development-ga sida darteed faa'iido badan oo labor force ah waa in laga helayo ayadana faa'iido ugu weyn oo arka taas waayo su'aasha kale waxa weydiiyey Maxamed Cabdullaahi Maxamed companies-keena sidee isugu diyaarin karaan suuqan ECA siyaabo badan ay isugu diyaari karaan waxaa kamid ah inay maal gashadaan kambaniyada xirfadda dadkooda inay maalgeliyaan hadii kale iyo sidoo kale technology-ga ay isticmaalaan iyo sida ay u bixiyaan services-ka ay u bixiyaan waa inay maskaxda ku hayaan marka inuusan monopoly sii jireenin ama ha dheeraata ha dhawaato monopoly-ga oo ah suuqa in hal company haysto ama laba company ay haysato ma sii jirayso dadka marka mar walba waxay dooro doonaan midka u fiican midka u fiican inay ayaga noqdaan human development technological investment service development waxyaabahaas inay ka shaqeeyaan waqti badan ay qaadanay laakiin haddii xilli hore bilaabaan waxa u suurtoobaysa inay sidoo kale xilli hore ay ka faa'iidaan Hashim Maxamuud Taxayle waxa ii muuqata in gelidda heshiiskan uu khasaarihiis ka badan yahay faa'iidadiisa marka Soomaaliya xilligan ku habboon tahay inay ku biirto agreement-ka khasaaraha iyo faa'iidada markii aan presentation-kan diyaarinayay waxa u fiiriyay sida waxaan ideal inay u shaqeeyaan ay tahay laakiin badanaa saas hadda waxa uma shaqeeyaan laakiin haddii ay dhacdo inay sida loogu talagalo u shaqeeyaan waa sax khasaare badan wuxuu ku yeelanaa Soomaaliya oo ku yeelanaa ku habboon tahay xilligan in la galo ani xilligan in la galo ma igula habboono laba waxyaabood oo badanaa aad ay uga hadlaan siyaasiyiinta waa deyn cafiska iyo ku beerista ururada noocaan oo kale labadaba aniga uma arko fikirkayga shakhsiga labadaba inay priority tahay uma arko sababta waxay tahay waxyaabo ka muhiimsan oo ah institutional reform-ki iyo policy framework-ki ay waxaan ku shaqeyn lahaayeen ma diyaarsana sidaa darteed waxyaabahaas marka hore in la diyaariyo wax badanna laga qaban karo sida ay la tahay marka waxyaabahaas in la diyaariyo lagu guuleysto waxay fududaanayaan in laga shaqeeyo ku beerista waxyaabahan in laga shaqeeyo haddii kale hadda waxaan u noqonaynaa victim dad naga horreeyay
horena ii sheeg u diyaarsanaa inay ka faa'iidaystaan waxyaabahaas inay ka faa'iidaystaan. Injineer Maxamed Xasan halis weyn soo kuma aan Soomaaliya inay ku biirtay dhanka dhaqaalaha. Of course faa'iido khasaaro badan way leedahay. Khasaarahaas ay leedahay waxaa qayb ka ah xurriyadda dhaqaalaha oo wax badan oo kamid ah ay tahay in laga tanaasulo oo wadamadaas inay hogaamiyaan la ogolaado. Sida ay wadamadaas sheegaanna sida oo ay wadamadan sheegaan waxay rabaan inay gaaraan political federation. Political federation waxa waaye siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan East Africa oo dhan in ay hal meel ama hal si loo maamulo. Inkastoo ay waqti badan qaadanayso haddana waxay ila tahay inay halis badan yeelanayso. And of course halis bes maahan sidoo kalena way leedahay faa'iidooyin way leedahay. Laakiin xaaladda dhaqaale ee hadda Soomaaliya ay ku jirto waxay ka dhigaysaa in khasaaraha iyo faa'iidada uu bato khasaaraha uu bato. Haddii Soomaaliya dhaqaalaheeda uu intaan ka hormaro ama Soomaaliya ay ka shaqayso institutionskeeda dhaqaalaha ay hormariso, khasaarooyinkaas waa la manage gareyn karaa, weliba faa'iidooyin waa loo bedeli karaa. Yacquub Axmed Ibrahim wuxuu weydiiyey ma laga yaabaa ganacsatada Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku nool ee Kenya ku nool inay protection helaan. Waxaa muhiim ah arrintan labadaba waxyaabood. Su'aasha labaadna waxa waaye ma laga yaabaa inaan noqon muwaadin EC ah fiisaha Kenya iyo wadamadan aan lacag looga baahnayn mar walba aan tegi karno. Labadaba koowaad aan ka bilaabo dadka Soomaalida ee ku nool Kenya ee ganacsiyada waaweyn ku haysto meeqa qof ah baasaboor Soomaaliya ku joogto oo deganaansho Soomaaliya haysta, meeqa company oo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin ku register gareysan Soomaaliya in laga leeyahay inaysan badnayn u maleynaa. Ganacsatada Soomaaliyeed ee Kenya joogto badanaa waxay ku joogaan baasaboorka Kenyaan ay ku joogaan, waxaana loo canshuuraa sida qof Kenyaan. Markii la xisaabayo dhaqaalaha Kenya waxaa lagu daraa wax soo saarkooda GDP-ga Kenya lagu daraa. Sidaa darteed dadkaas waxba ma faa'iidayaan. Culeysyada la saaro waa culeysyo ay qowmiyad ahaan sabab u tahay. Sababtoo ah qofka Soomaaliga ee ka yimid North Eastern ka yimid goboladan Garissa Wajeer meelahaas ka yimid iyo qofka Soomaaliga ee ka yimid Muqdisho ka yimid marka Kenya ay joogaan culeys isku mid ah ka maraan. Sidaa darteed inaan ku biirinayo inaan ku biirin inay yareynayso culeyskaas ilama aha. Sababtoo ah culeyska waxaa sabab u ah jinsiyadda qofka Soomaaliga. Laakiin markii documentation laga hadlo dadkaas waxay haystaan badankood baasaboorka Kenyaan ay haystaan. Sidaa darteed ma ila aha inay wax badan ka bedelayso sidii loola dhaqmi jiray dadkaas. Midda labaad haddii aan ku biirno faa'iidada koowaad ama waxyaabaha la helayo waxaa kamid ah baasaboor. Ayaantii dhaweyd markii Soomaaliya ay u diidanayeen waxyaabihii ay xoogga saareen waxaa kamid ah Soomaalida imaanaysa si loo controlayo oo soo galayso waxyaabihii oo xoogga ay saareen kamid ah. Laakiin maxaa uga baahan tahay inaad Kenya tagto oo aad Kenya tagto? Haddii si Kenya aad tagto yaa faa'iido. Qofka Soomaaliyeed markuu Kenya tago deegaanka cunnada wax kasta wuxuu lacagtiisa ku bixinaa wuxuu gelinaa lacagtaas Kenya. Sidaa darteed qofka Soomaaliga ah fiisa helay maaha wax faa'iido. waa qofka Kenyaanka ee qofka Soomaaliga oo la macaamilayo ama hotel uu ku degayo ama maqaayadiisa wax ka cunayo ayadana sidoo kale uma arko inay tahay faa'iido inay tahay uma arko still waa faa'iido ay helayaan Kenyaanka ay helayaan. dhaqaale ma laga yaabaa in lagu yabo isla Yacquub ay weydiiyeen ma ila aha wadamadan East Africa dhaqaale ahaan ma iskabi karaan ma iscaawi karaan laakiin inta isku tiirsanaadaan dhaqaale ahaan ma isla raadsan karnaa waa ujeedada hadda ay ururkan ay u samaysanayaan.
ay ma ay u samaysteen of course urur Soomaaliya Afriil oo tan sano u jira laakiin inay Kenya Soomaaliya lacag siiso ama Uganda Soomaaliya lacag ay siiso ma aha wax ii muuqda maaha Maxamed Saalax wuxuu weydiiyey generally Soomaaliya ma u fiican tahay mise way u xun tahay waxaan rabay presentationka inta ama barnaamijka inta ka hadlayay inaan aad uga yareeyo afkaarta shakhsiga inaan ka yareeyo oo aan ka hadlo waxa oo ay generally aan ka hadlo sidaa darteed dadka oo go'aansanayo ama dadka dhageysanaya si ayaga ay u go'aansadaan faa'iido iyo khasaaro waxa ay tahay laakiin aniga personal idea ama fikirkayga shakhsiga ma rabo inaan ku daro ma rabo waxaan sheegay faa'iido iyo khasaarooyin haddii generally barnaamijka qofkii uu la socday oo kale waxaan isleeyahay u caddahay inaan ka faa'iideyno iyo inaan ka khasaarin waa jeclaan lahaa sida ila tahay inaan sheego laakiin professionka academiga wuxuu yahay qofka inuu ahaado meel dhexa inuu taagnaado هاشم waxay weydiiyey Soomaaliya exportigeedu wuu yaryahay Soomaaliya exportigeedu wuu yaryahay waxay dhoofisaa Soomaaliya xoolaha waxa ugu badan ay dhoofiso 93 waxyaabaha Soomaaliya ay dhoofiso waa waxa la xiriira xoolaha waxayna u dhoofisaa wadamadan East Africa sidoo kale waxaa la dhoofiyaa liin dhanaanta iyo sisinta sidoo kale ayaga la dhoofiyo waxyaabahaas marka oo ka soo baxa beeraha oo wax tira aad u yara ay dhoofidaa Soomaaliya exportska Soomaaliya waxay dhul beereed aad u ballaaran leedahay 70% dhulka Soomaaliyeed waa dhul beereed ay wax ka soo bixi karaan cunayarida dunida ayaa markaan dambe soo wajahaysa haddii beeraha Soomaaliya laga shaqaysiiyo wadamada dadka populationka ay ku badan yihiin sida China India waxay u baahan yihiin inay cunno ka gataan ama waxyaabaha beeraha ka soo bax Soomaaliya ay ka soo gataan weliba wadamadaas wax badan aan ka soo dhoofisanaa shuruud waa uga dhigi karnaa inay cunnooyinkeena ay qaataan laakiin waxa shuruuda tusaale Soomaaliya waxay dhoofisaa xoolaha nool ay dhoofisaa haddii ay inta xoolahaas qasho hilib ay dhoofi karto Soomaaliya waxay noqon lahayd wax u badan oo faa'iido ka badan tan xoolaha laga sameeyo laakiin su'aasha koowaad waxay tahay meeqa la isku halay karaa waxa ka yimaado Soomaaliya ka yimaado oo waxa qasaba marka in la helo standardization ay aad ka shaqeyso standardization sharciyada Soomaaliya legal system rule of law wax la yiraahdo sharciyada oo lagu dhaqmo inay sharciyo la isku halay karo institutions la isku halay karo ay noqdaan exportiga kaliya ma ahan maxaa soo saarta waxa aad soo saarto ama waxa aad sheegaysa inaad soo saartay meeqa la isku halay karaa waxay qayb weyn ka tahay waxa aad dhoofinayso soo marka waxay u baahan tahay dowladnimada oo horumarto si looga helo faa'iidooyinka la rabo looga helo magac kuma qorno qofkan ma laga yaabaa haddii ay Soomaaliya ku beerto in shidaalka ku aasan Soomaaliya ay ka faragelin ku sameeyaan badanaa wadamadan East Africa ayaga shidaal way leeyihiin badan oo Soomaaliya Kenya isku haysteen waxa yaabaha in la isku haysto qayb weyn ka mid ah ama Kenya u raadinaysa qayb weyn ka mid ah inay Soomaaliya ku qabsato qayb weyn waxa ka ah shidaalka ku jira wadamadan oo East Africa marka badankood wadamo shidaal leh waaye sidaa darteed shidaalka Soomaaliya ku jira wax weyn oo muhiim ah oo ayaga u yahay ma jirto inta kale shidaalka ayaga ay soo gataan waa shidaalka oo la yiraahdo crude oil ayaga sifeeyo jaanisiyada uu heli karno in anaga keena la qodo kale in uu heli karaan sidaa darteed ma ahan fursad weyn oo ma arko midda kale ayaga shidaalku waxa shidaalka aad u qaato wadamada warshadaha waaweyn leh aad u qaadanaya warshado waaweyn oo shidaal badan ay u qaataan ma lahan sidaa darteed saameyn badan ma ku sameyn karaan shidaal midda kale faragelintooda ma weynaanayso sababtoo ah kambaniyada shidaalka qodo waxa iskale inta badan ama kontraktiga la galo waxa iskale wadamo reer galbeed wadamadaas marka ma sahlana in la farageliyo faa'iido ma laga heli karaa haddii
advantage that compensate revenue from tax. revenue haddii lagu beero su'aal la weydiiyey faa'iido ma ku jirtaa oo lagu kabi karo ama looga compensate garay karo revenue ama canshuurta jaadka la saari jiray haddii oo lagu beero waxay ila tahay revenue-gaas waa la lumi doonaa ma laga helayo mana la heli doono welina lama xadidi karo option kaliya dowladda u furan wuxuu noqonaa inay dhahdo jaadkan wuxuu dhibaato ku yahay dadkayga soo jaad dambe liyima keena of course mar walba way dhihi kartaa oo xaquuq ay dowladaha ay u leeyihiin waaye taas oo marna aan laga qaadi karin laakiin si kale revenue-gaas lagu heli karo waxaa waaye wax badan inaan ayaga u dhoofino canshuur ay noo baajiyaan dadka Soomaaliyeed income-ka ay ka sameeyaan la canshuuro income-kaas ay dowladda dakhliga ka soo geli jiray ay ka kabto sida oo kaliya oo lagu kabi karo saas waaye جوري محمد waxay weydiisay maxaa dowladda ku riixayo inay maxaa laga faa'iidaa in lagu beero badanaa waana political culture oo Soomaaliya ku jiro marna siyaasiyiinta ama hoggaanka waddanka ka jira markaas hal hoggaan iyo laba hoggaan maaha waa culturally political culture ka jira waddanka qofka hoggaamiyaha ma dareemo inay mas'uuliyad ka saaran tahay inuu dadka u sharaxo waxa uu damacsan yahay ama hadafka uu rabo inuu gaaro waxaa sabab waan isleeyahay dadka oo aan dooranin qofka hogaaminayo oo dad ilaa bes ay doortaan hoggaanka ay doortaan hal faa'iido oo siyaasadeed way ku jirtaan haddii Soomaaliya ay ku beerto East African Community ay ku beerto dowladda hadda jirto ama dowladda ku guuleysatay inay ku beerto waxay awoodaa inay sheegato inay ku fiican tahay xiriirka caalamiga tusaale dowladdaas ama xisbigaas iyo dadka taageersan waxay dood la'aan dhihi karaan xiriirka caalamiga wax badan aan ka bedelno Soomaaliya oo 10 sano raadinaysa East Africa inay ku beerto ku guuleysan that is one political point oo la iskoor garay karo laakiin bulshada maxaa faa'iido badan oo u jirto oo ay muuqato ma jiraan prioritiska dadka si ku doortaan ayadana sidoo kale ma aqaan dowladda si priorities ku doorataa tusaalahaan oo kale waxaa laga yaabaa inaad aragto siyaasi inuu ku khudbeeyo waxaan sameynaa shaqo abuuraan sameynaa inuu dhaho laakiin shaqo abuurku wuxuu u baahan yahay dowladda anaa dad shaqaalaysiinaya maaha shaqo abuuraa sameynaa waxaa waaye suuqaan ka shaqaysiinaa si uu shaqo u abuuro shaqo abuur waxa laga wado economically saas waaye haddana waxaa arkay caqabadaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha haysta inuu ka imaanayo institutionska dowladda arkay waxaa arkay in siyaasi ku qudbeeya waxaan la dagaalaa musuqmaasuq aan la dagaalaa haddana hal sharci ama hal shay oo la xiriira musuqmaasuq inaan la baasgarayna arkay I don't know ma fahamsani waxaana sabab u ah isleeyahay aqoonteedu siyaasaddu aad u yar laakiin siyaasiyiinta say ku go'aansadaan say u fakeraan afkaartooda dhaqaale hadalkooda wax laga fahmi karo ma wax u qarsan ilaaha yaqaan long run maxaa laga filaa long run waxaa laga filaa meesha aadnay ku xiran tahay haddii meesha hadda aad joogno aan sii joogno waxba lagama faa'iidayo haddaan ka hoos dhacno waxba lagama faa'iidayo laakiin meesha hadda aad joogno haddaan aan ka kor uga kacno oo sida la sheegayo Soomaaliya deynka laga cafiyo oo Soomaaliya ay shidaal qodato oo lacag tiro badan hesho oo ay infrastructure I don't know sida xataa ay u kala hormariyaan laakiin infrastructure ma mise service wixii uu ayaan dhawid ka hadlay ra'iisul wasaaraha meelahaas la geliyo oo dhaqaalaha uu aad u kobco bimashii'atillah waxaas oo dhan ku dhacaan waxaan isleeyahay waa laga faa'iidaa in loo gaaro dowladda Farxaan Maxamed Saahid dowladda aan xakameyn karin lacagta awoodna aan u lahayn canshuuraha alaabta isku gudbaysa waa maxay faa'iidada ay ka helayso maxaa
canshuuraha waxay u baahan yihiin revenue authority in la sameeyo wasaaradda ka shaqeysa wasaaradda maaliyadda inay effective noqoto ay u baahan yihiin aniga saa waxay ila tahay inay ahayd waxaas in laga sii shaqeeyo inta aan loo gudbin regional integration laakiin inta aan waxaas laga shaqeynin wax oo badan oo laga faa'iidayo inay jiraan ma ila aha Cabdiqaadir Mukhtaar is it an opportunity to reduce unemployment rate and raise human development in regional integration unemployment ma yaraana unemployment waxyaabaa lagu cabiro waxaa ka mid ah tusaale haddii ajaanib badan waddanka ay timaado dadkaas ajaanibtaas iyo lacaga badan waddanka ay soo galaan qofka Soomaaliga uu ka maarmo inuu shaqeeyo oo asagoo aan shaqeynin oo lacag heli karo sida dowladaha khaliijka ka jirto oo kale dadkaas waxay ka baxayaan labor force waxaa la yiraahdaa ama ay iska qoostaan inay shaqo helaan discouraged labor effect yaa la dhahaa baagamudada saas way ku yaraaneen haddii qofka Soomaaliga go'aansado inuu soo shaqeynin lacagna uu ku noolaado oo dowladda ka helo kale oo shaqo rabin baagamudada saas way ku yaraa kartaa laakiin haddii sida oo hadda ay ideal wax u shaqeynayaan ay u dhacaan ajaanib badan waddanka ay timaado wadamadaas dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan isku mid noqono baagamudada way badanayaan ma yaraanayso sababtoo dadka oo ku tartamaya labor marketka badanayo qaabka iyo systemkooda iyo awoodooda waxbarasho ay tahayna way nooga guuleysanayaan shaqo helista way nooga guuleysanayaan PowerPoint-ga waxaa lagu heli karaa sida Ustaad Cabdiwahaab ii sheegay dadkii soo register gareeyay email-kooda ay hayaan xafiiska public relation kadan waxaa loo soo diraa PowerPoint-ga waa loo soo diraa waa mahadsantihiin su'aalo kale haddii jirin waxaan ku wareejinaa Ustaad Cukaash Sacdoon aad ma santahay dhamaan waxaan noogu jawaabtay 14 su'aalood oo dadka soo weydiiyeen waxaa jiro laba qofood oo gacanta taagan محمد أحمد عابل محمود وحجعلنا لها دي سؤال أقتين نفسه قرطين جاد بوكس دي أي سؤال هذا قبلنا البرنامج كسر حرمنا وحنسوق قارني قابه يقدم ببرنامج كنا محاربنا نصر حر أجاسنا حر جود جامعة الشيخ عبد الله أحمد عبد الرحمن وحفيز في سوق أجاسني وبنارس كان وكيل بعض هاي وبحياة أسبوعاً ستسلو سيا بروجرام كان نوصل حكي الفلور سيريس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقيارت شرفت له أستاذ عبد النور أستاذ عكاش لما انكسوا قبلياش بروجرام كان وعن آد ومهد علينا كسوا قبلياش برنامج كان سيدة ونحسن هادو لي سنتين او كوميتمنتيga lahayd oo casharka aad ugu faa'iideysteen doctor kusoo jeedin Saad Nuur waxaan kaaga mahadcelinaa waqtiga dheeri aad gelisay dadaalka iyo juhdiga fakartigaaga oo qayb weyn ka qaatay barnaamijkani inuu suurto galo waxaan kala rabaa inaan u mahadceliyo Ustaad Cukaash oo waqtigiisa siiyay xafiiska public relation-ka si barnaamijkan si effective lah u dhici lahaa waxaan kaloo ka marnaan meesha si teamka technical-ka oo PR-ka uu horeeyo Ustaad Cabdiwahaab oo barnaamijka la'aantiisa inuu dhaco suurtagal lahayn waxaan dhammaan aqyaarta sharafta leh oo meeshan ku wada kulantay aan ugu tagayna haduu Ilaahay raadiyo insha Allah taala maalin kale oo xiiso leh oo barnaamij oo ka duwan barnaamijyada labada maalmood isbuucii hore aan qabanay isbuuca insha Allah waxaan rajaynaynaa khamiis soo socota program kale inaan qaban doono oo aan diidayo inaan sii hor dhaco laakiin insha Allah taala page-ka jaamacadda aad ka arki doontaan macallin kale oo ama khabiir kale aan keenayna haduu Ilaahay raadiyo insha Allah taala program serious waaye oo socon doono 2023 aan ugu talagalnay inaan qayb ka noqono macallimiinteena inay yimaadaan media ayna sheegaan aragtidooda iyo waxa ay qabaan iyo la wadaagaan aqoontooda iyo khibradooda waan mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Abdullahi aad ma santahay intaas loo barnaamijka maanta wixii recordina slides waxaan soo wadaagi doonaa emailska iyo dadka jaamacadda ma santahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh